بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله داوديال وشوقي gaar haye oo idin kaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaahid Cabdullaahi Khaliif waa maalin axada oo habeenimo sabtiya isniinaha ay soo galayso bisha November-na waa 18 sanadka 2018 mowduucuna waa dabaylahaas ka dhawanaya geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha Soomaaliya waxaana marti noo ah aqoon-yahano badan oo hore oo aragteen waxa kamid ah Safiya Yaasiin baa kamid ah Cabdi Udan baa kamid ah Axmed Maxamed oo midba si guudna wadanka dhan uga warqaba geeska Afrika xaalado gooniyana ku takhasusay waa arki doonaa soo dhawaada kulligiin thank you mahadsantahay Cabdiwaahid waa dhowna khadkan wali jirta aad baad u mahadsantihiin daawadayaal gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dawladda gudna kama qaadano gacan saarna lama lehin mucaaradka cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gadsnaan karaa laakiin danta guud waa mid gooriya ayaan gabagabada hadalku waa sidii guujis Allah u naxariistay oo oran jiray aan ku garownay gaar hayow geeyiga ilaali سايدن كبلان قادنay waxaan idin keenaa labeentii Soomaalida culimadii dhaqaatiirtii aqoon-yahanadii maadiga ahaa oo saddexdan aqoon-yahan kamid yihiin al-abuuradii hoobaladii iyo dhamaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo rag iyo dumar leh dhalinyaro iyo waayeel barnaamijkii baan wadagalaynaa marka isgaarsiiyo oo shargareeya Safiya ku bilaabaya Safiya intaan u gelin arrimahan geeska Afrika oo hadda Ethiopia horboodayso oo waagi hore Zanaawi iyo Tigreega arki jirnay haddana Abiy Ahmed iyo Oromadii weeye intaan u gelin waxa jiray khilaaf u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka taageerayaasha dawladda iyo dad badan hadda waxay aaminsan yihiin in lagu kala adkaaday oo dawladdu ay Hirshabeelle ay soo dhaweysay meesha ay ka saareen Shariif Xasan ayna leeyihiin ninkii غيركيس لو حيريو سو qoyso ay leeyihiin Puntlandna hebel baan keenaynaa marka arimahaas xagee ku dambeeyeen ma sida taageerayaasha dawladdu sheeganayso bay arintu u dambeyn doontaa see kulata soo dhaw Safiya Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh may maqlaysaan si fiican waa ku maqlayaan si fiican والسلام walaalayaal dhamaantiin inta barnaamijka igala qayb qaadanaysa Cabdiwaahid waa ku mahadsantahay mar kale inaad igu soo casuuntay barnaamijkan muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed arrimahan socda waa sidaad sheegtay waxa dhacay waynu ogeen intaynu wada hadalnay kadib hadda ka hor barnaamijkan ka wada qayb qaad igu casuuntay waxba isbedelay oo South West waan aragnay waxa ka dhacay isbedel ka dhacay inkastoo isbedelkaas uu wali dhamaanin oo soo gabagaboobin oo hadii doorasho wali kama dhicin meeshii oo xaaladdu siday noqon doonto ma naqaano wali laakiin waxa muuqata faragelin ayaantii horena waan ka hadlay faragelinta maamulada lagu hayo in dawladda federaalka ahayd hadda ma rabo inaan ku noqdo wixii maalintii hore aan ka hadlay laakiin dawladda federaalka oo u socotay inay burburiso maamulada oo burburintana ay uga dan leedahay in ay iyadu u yeeriso ninka ay rabto ay iyadu geysato inta maamulaha ka dhisan wadanka shanta maamul marka laga reebo Somaliland arintaas hadda meesha ku dambeynayso anigu kulli Soomaali hadaan aqaano oo Soomaali aan wada naqaano Soomaalidu waxay ku wanaagsan tahay in walaalo la yiraahdo oo wax lala wadaago wax loo yeeriyo haday shaqeynayso dalkeenu ma burbureen oo dawladii 12 sano dalka haysatay oo maaragtay isku dayaysa inay xakamayso ummadda way xakameyn kar lahayd hadii Soomaali la xakameyn karo marka anigu waxaan rabaa in laga warsugo bal sida xaalku noqdo arinta ku saabsan Puntland xageeda Puntland horta de waxaan maamuladan oo dhan way ka horeysay ayadii Somaliland dad waxay ahaayeen dalkooda ereydooda iyo deegaankooda dhistay oo wax hagaagsaday walaalaheena kale ee Soomaaliyeedna tusaale u noqdeen khaasatan Puntland oo aan oran Soomaaliya waa ka go'ay oo tusaale wanaagsan u noqotay Soomaalida kale ee koonfurta ayadii hadda laftirkeeda oo u qabnay sidaan maalin hore ka hadlaba in ay solid maamul uu yahay oo aan la gilgili karin waxaan aragnaa xoogaa in weerar cad oo qaawan lagu qaaday Puntland taasoo muujinaysa in musharaxiinta
ay si cad oo bareer ay dawladdu u wadato federaalka ah qaar baabuur loo soo daabulay oo xamar looga soo daabulay taasaa caddeyn u ah waa wixii baydhabo ka dhacay oo kale qaar badan oo kalena aan ogahay anigu meesha waan kasoo shaqeeyey dad badanna waan ku xirnahay waan rajeynaya adigana sidoo kale inaad ku xiran tahay oo ka warqabtid dad badan oo musharaxiinahan ka warqabaa oo xamar gacan saar la leh oo aan ahayn ninka gaariga loo soo daabulay keliya rag kalaa jira marka waxaa ka go-an maamulka xamar dowladda federaalka ee xamar waxaa ka go-an nin ay iyagu u yeeriyaan waxa ay rabaan in ay maamulada geystaan safiya aan kaa dhex galo ninkaas waxaa la leeyahay kolley sida loo fahmayo waa jabshaad moodaa waa nin ganacsada ah ninka waa nin lacag leh marka wax caddayna oo hadda loo hayo in dowladdu gaari ay soo siiyeen lahaa hadda ma lahan marka waa iska eedaynso lama dhihi kara arrintaas horta arrintaas anigu maxamuud khaliifa la dhahaa jabiye reer minnesotaan isla ahayn kulley waa nin puntlander oo xaq u leh inuu sharaxo oo u tartamo dalka sida ragga kale laakiin waddada uu u maray hadduu xataa baabuurka soo gatay isagu waddada uu maray ma qurxana waxay ka muujinaysaa image khaldan bay ka bixisay runtiina waxay u geysatay dhibaato weyn aniga dadka waan ku dhex jiraa sidaa adiga laftirkaa ugu dhex jirtaan u malaynayaa waan wareystaa dadka waan dhegaystaa waxyaabaha ay qabaan xataa dad badan oo taageerayaashiisa ahaa baabuuradaasi waxaasi xiriirka uu xamar la leeyahay markii la arkay reer puntland waa ka dadeen reer puntlandna dhaqankooda waxa waaye iyagaa waxooda samaysta sida tradition ahaan jirtay iyagaa doorashadooda samaysta ayagaa waxooda samaysta faragelinta ma jecla marka arrintaa waxay ula muuqatay ama baabuurkiisa ha soo gato ama ha la siiyo hadduu xataa soo gata xamaru ka soo gata most likely marka waxay muujinaysaa xoogaa calaaqaad inuu halkaa ka muuqdo arrintaa dadku ma jeclaysan xataa taageerayaashiisa kuwa ahaa ii sheegay waxay dhaheen arrintaa dhibaatay ku noqotay ninkaas laakiin waan arkaynaa kolle meeshay gaarsiiso doorashada waxaa kuu soo haray faragelinta dowladda federaalka anigu u malayn maayo inay guulaysatay hadday dadka qaar u qabaan kuwa dadka taageerayaasheeda ah fari kama qodno waxa socda horta puntland anigu waxaan ku aqaan lacag iyo waxaas markay noqoto dad baa waxay ka hadlaan lacag baa la qaybinayaa iyo waxbaa lagu gelayaa doorashada waxaan soo joogay doorashada 2014 waan joogay xataa tan Soomaaliya waxaa xaqiiqa Soomaalida lacagahan iyo waxaan waa la wadwadaa laakiin marka ugu dambaysa ay go'aanka gaarayaan qofka kuma doortaan yaa lacag bixiyay oo waxaa tusaale kuugu filan musharaxiintii ugu lacagta badnaa anigu waxaan ogaatii xamar 2012 iyo tii puntland 2004 oo 14 uu Cabduul ku soo baxay labaduba waan joogay oo waaga Soomaaliyan jiroon ka shaqeynay waxa xaqiiqa ah oo dadka dhan wada ogyihiin raggii ugu lacagta badnaa ma ayna soo bixin marka arinta wacdahay waa u soo noqonaa safiyo Cabdi Udan baryahan saa hadda ku bilaabay hordhaci Zanaawi waagu yimid iyo Tigreega dadka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen waa mashquuliyeen Soomaaliduna waa soo dhaweysay waxay dhaheen niman xamar la joogay oo gacan saar aan la lahayn baa yimid hadda waa sidoo kale marar badan baa arrinta ka hadalnay waxaan ka bilaabaynaa bal kadib shirarka u dambeeyay saddexdan hogaamiye madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki madaxweynahan waxaad moodaa turubkiisii xabadku u dhaweeyay oo wax cid ka arkaysa male keligiis baa saa u fiirinaya xataa xildhibaano iyo la taliyaal iyo ilaa hadda akhbaar kama hayno marka maxaad is leedahay marka hore aan uga soo hadalay marar badan arrimahan u dambaysa arrimaha saa muhiimka ee madaxweynuhu isku koobay oo xataa wafdi ballaaran aysan raacin oo culuma aysan kala talin oo odayaal aysan kala talin maxaa ka imaan karaad is leedahay marka oo wanaaga ama xumaan labadaba ah soo dhow bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka koobaad gaar haye Axmed Safiya iyo ummadda Soomaaliyeed ee caalamka daafaha caalamka naga daawanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله marka dambe hadaan soo noqdo mowduucan hadda ay weydiisay mowduuc guda ballaaran yahay oo wax dood yar oo kooban laga dhameystiri kara maaha laakiin haddii aan wax yar dul istaago oo soo koobo taariikhda Ethiopia iyo Soomaaliya markii la isbarbar dhigo waxaan ay ka hadlayaan iyo waxyaabaha ay cuskanayaan dawladda Cabdullaahi Farmaajo waa wax yar oo basiida markii dhinac laga fiiriyo waayo waxa ugu badan ayagu hadda ka hadleen markaynu dul istaagin inta muuqata waxay dhaheen isdhexgalkii bulshada yaa laga hadlay waxa laga hadlay dhaqaale arrimaha dhaqaalaha in laga faa'iideysto
istiraatiijiyada xagga amniga waxyaabahaasay ka hadleen laakiin waxayna u soo hadal qabsadeen haddii ay saddexdan gobol la isku daro in ay awood East Africa ay imanayso sida Europe oo kale awood xoog leh inay meesha ka iman karto laakiin meesha waxaa ku jirta hadda Europe oo kale dagaalka labaad ee dunida wixii ka dambeeyay ilaa 65 sano ay ku qaadatay meeshan ay hadda joogaan inay soo gaaraan 65 sano waa xasiloone siyaasadeed xasiloone dhaqaale xasiloone amni waxyaabahaas oo dhan ayaa laga soo shaqeynayay dadkii waxaa lagu sameeyey waxa la yiraahdo social engineering dadka fikirkoodii iyo qalbiyadoodii reer Yurub yaa la bedelay oo in aqbalaadan ay isdhex galaan ah yaa lagu sameeyey waxaa laga shaqeeyey inay hal dhaqan yeeshaan oo western culture wax la yiraahdo yaa la abuuray dadka kala dhaqanka ah marka innaga aan u noqono dhinaceena oo Soomaaliya iyo Itoobiya markaan u noqono marka koowaad Soomaalidu waxay Itoobiyaanku haystaan oo iyagu leeyihiin cadow kuma noqonino duulaan kuma ahayn qarniyadii hadda la soo dhaafay intaynu xusuusano 5tii qarni ee u dambeysay Itoobiyaanku iyaga duulaan Soomaalida ku ahaa waa dhulkooday rabeen ilaa ay xeeb waxyaabaha hadda la document gareeyay ee la qoray waxa ugu fudud hadda ugu sokeeya waa laga soo bilaabo Mililik ninka ka dambeeyo qoriisu dhiib u ahaa in dhul Soomaaliyeed ay helaan qaarkoodna waxay ku andacoonayaan dhulka in ay iyagu leeyihiin Soomaalidu ay qoyto dool ku tahay ay ku andacoonayaan taa marka waxay meesha ka saaraysaa in Soomaalida iyo Itoobiyaanku inay wax isdhaafsadaan waxa intaa kaba sii daran Itoobiyaanku waqtigan xaadirka dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed bay haystaan oo laba cali aan isweydiinin oo meel la iskaga ogaaday ayna jirin waxa intaa ka sii daran haddii fikirka dhinaca Soomaalida la dhihi lahaa wuxuuna iska bedelo kan Itoobiyaanku ma isbedelay weey waa maya bil kuma soo wareegin markii Itoobiyaanku lahaayeen ay dadkooda ku qasbayeen baarlamaanka la hor keenay in maalin qaran loo sameeyo dadkii 77 ku dhintay marka taa meesha waxay ka saaraysaa fikirka ah in Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Eritrea isku darsamaan xataa haddii laga hadlayo dhinac dhaqan dhaqaale iyo ganacsi iyo waxa haddii laga fikirayo waxay ahayd in Kenya iyo Djibouti waxa aynu la wadaagi weynay Itoobiya iyo Eritrea lama wadaagi karo oo welibana Eritrea wax xad ah aynu leenahay uusan jirin walaalahin Djibouti waxyaabo fara badan baan wadaagnaa hal dal iyo hal dad baynu nahay haddii ayagii wax la qaybsan weynay aan wax la wadaagi weynay wax la saxeexan weynay fikirka waa in aynu Itoobiya aadno waa fikir khaldan marka anu waxaan dhihi rabaa arrinta muuqata aan hadalkayga waan ku dheeraaday aan ku soo koobayaa wuxuu ahaa falkaasi fal dembi qaran baan dhihi karaa waa qariska tuur baynu dhihi karaa waa qariska tuur kulka isagii waayo wuxuu qariska tuur ku yahay wax inna habeeraatee loo cuskaday ma jiro xeerarka caalamiga ah aan ka dhaxgale waxay ku doodayaan qolyaha nabad iyo nolol fargelintii Itoobiya nagu haysay dawladda awood badan waa soo afjarantay maamul goboleedkii u kala ordi jiray hadda waa la soo xiray gabra la xiray bay leeyihiin ma walba gabre laakiin waa ka hadli doonaa laakiin waxaas ku doodayaan marka hadday arrintaasi run noqotay soo ma ahan wanaag soo kordhay maya waa dhinaca iyagu ka fiirinayaan waxay dhibaatada hadda dadkeena inta badan haysata waxa weeye bulshadeena Soomaaliyeed hadda ku badatay su'aalaha why what and how cid isma weydiiso su'aalahaas waxa kaliya ee la isweydiiyo waxaynu noqonay dad inda ku garaadla waxa marka inoo muuqdo un la fiirinaya nimankani hadda sida muuqata billa Soomaaliya jooga kaliya waxay u shaqaynayaan inay 4 sano ee dambe siday ku soo noqon lahaayeen markay inta 4 dhamaystaan 4 dambe say xukunka ku gali lahaayeen way waxay ka shaqaynayaan ma aha dan qaran iyo maslaxa ummadeed waa ku soo noqonaya halkaas ka sii wadanaa waa sii wadanaa Axmed Maxamed adiga saa la socotid Somali state iyo geeska Afrika iyo Djibouti iyo aad baad aqoon ugu leedahay waad maqlaysaa hadda Cabdi udan hadalkiisii waxa hadda la sheegayaa warqad ka soo horjeeda clan federalism waxa la yiraahdo in ay taalmeesha oo ay dhici kartaba in la laalo federalismka hadda sida Somali state oo kale awal Tigreegiyo dad yar ba yani qorshahan ku duulayo intay sameeyeen bay isaga tageen
hadda oromadu waa dad badan marka arrintaas maxaa ka jira ood ka maqashay haddayse jirto maxaa faa'iida ama khasaare ah noogu jira dhanka Soomaaliyeed miyaa mise waa dhanka Ethiopia labadaba waa federalism labadaba adigu Soomaalina anaga noqon laakiin isku wad wuxuu dhan isku bismillah horta waxaan ka socda Cabdiwahaab geeska Afrika Safiyo Cabdi Xiis labadaba way ka hadleen si fiican bay uga hadleen haddaan ku horeyna tan Soomaalida iyo farmaajo iyo maamul goboleedada waqti maalmaha waa ka isku dhacsanaayeen dowlad goboleedada iyo farmaajo xiisad xun baa ka taagnayd dhowr laba jeer baan u malay inuu ballan qaaday fadhina isugu yimaadaan waa ka diideen halka awood bay iska bidaayeen marka awooddaasi asagu wuxuu raadiyay awooddaas wax uu ku jabiyo marka farmaajo taada dambe oo ku soo noqon doonaa farmaajo heshiiskan asaga wax dan oo yacni hadda awood ummadda Soomaaliyeed ugu jirta ma laha laakiin asagu wuxuu rabaa in nimankan maamul goboleedada ah uu ku cadaadiyo si ayna wadamada deriska u tegin hadda waan ognahay Shariif xilka waxa ka qaaday ciidamadii militariga baa ka qaaday asagu si kale uma tageen waa loo hanjabay markii hore anaga meeshu keenay haddana iskaga tag baalay markii uu keenay ciidamo ama baabuur aan hubku karin markuu keenay sida hadda u socoto horta hal ogow Ethiopia marra ka yeeli mayso weligeedna ogolaan mayso central government iyo awood leh inay Soomaali ka dhalato weligaa ha ku xisaabtami taas ama ha ormaha qabsato ama Tigray ha qabsato ama Xamaaraha qabsato weligood ma yeelayaan dawlad xoog badan oo tii hore oo kala inay Soomaaliya ka dhalato danta Ethiopia uma jirto sababta waxaan u maray miliq koowaad baa buuga hadda lagu dhaqmay ortodogska ee kaniisadda Ethiopia yaala ayuu madaxweyne kasta ama ra'iisul wasaare kasta yimaado horta ku dhaqma waxaan kale dastuurka la qortay waa kalaan faaruq waxba kama jiraan laguma dhaqmo kaas wuxuu sheegayaa geeska Afrika inayna dawlad xoog leh oo muslim ku abtirsata inayna ka dhalan ilaa milida ka soo qaad kii koobaad kii labaad Haile Selassie Mengistu up to now meelas baa u dambeeyay dhammaantood waxay aaminsan yihiin Soomaali goosaano qabiil inay Soomaalidu tahay tribes inay tahay sidaana lagula dhaqmo horta taan iyo degel Ethiopia danteedu waxa ugu jirtaa ayuu say aaminsan tahay in Ethiopia Soomaaliya oo qoysa oo saa isu haysata inay ayadu dan ugu jirto laakiin danta ugu ma jirtay ammaankeedu wuxuu ugu jiraa Soomaali oo tayar oo isdhexgal sameeyaan laakiin midan maanta taagan Ethiopia waa federaal say sheegatay laakiin federaalka iyo dastuurka ma lagu dhaqmaa dastuurku sidoo qoran yahay waxa ku jira shuruuc bas fiican oo geeska Afrika u fiican oo ummadda Ethiopia Soomaalidu ka mid tahayna u wanaagsan laakiin laguma dhaqmo kolba qoladii qabsatay fiiri Xamaara qabsatay awooddu waxay ahayd nafsan yaabay 75 ummadda dhaqaalaheeda ama beeraheeda wax ka soo gaa Xamaarada qaan jirtay iyo maamulkii ay Xamaaru talisa qaan jirtay 15 kale oo raashin loo jebiyo sida ruushkii shuuciyadii faylka loo gali jiray oo canjeerada loo raqiisiyo ayay ku dhaqmi jireen ilaa up to now tiimelis baa ku xigtay wad ogtay ummadda Soomaaliyeed markuu soo galay meel sanaawi wanaagii iyo fiicnidii iyo wixii laga filayay iyo qaabku u dhaqmay oo xataa uu Soomaalida qabiil Soomaalidu inuu yiri isku qolay baynu nahay hadda kan wax ku shiti liirada hadda leen ugu khaldayaan waa the same waa isku mid weey tii hore tan waxba isma dhaamaan waa la ogaaday Soomaalidu furay leedahay furaha laga soo galo waa qabiilka waa kala qaybinta in ku qabiil la soo dhaweysto kuwana la riixo waxa waa dhaqanka Ethiopia awoodda Ethiopia waxay ku dhisan tahay in Soomaalida saa loo qaybiyo sababtoo way ogtahay dad ka activesan Soomaalidu waa dad activity waa arday oo intaas 7 sano dagaal ku jiray oo halaa ku jiray oo abaara ku jiray haddana horumarka dhaqaale ay sameeyeen horumarka ganacsi ay sameeyeen horumarka education tusaalaan ku siinaya hadda waa aragtay tiknoolajiyada ama warbaahinta aan ka dhaxgalo Axmedow federalismka xoog saarayna hadii ay Ethiopia hadda laasho arrintan oo ay tiraahdo dib baa nooga imaanaysa Oromiya Soomaaliya isdagaalaya dawladda xarabna federalismkan ka kacweeyay xagee taaganahay Soomaali galbeed ahaan ama xarada iyo amxarada awal buu rabtay arrintan ayagoo ku faraxsanaysa in la yeelo marka Tigreegii yaraa xagee marka yaa faa'iideeya khisaaraysa isleedahay harta markastaba awood central oo Ethiopia ay yeelato adu baa ku khasaaray Soomaalidu baa ku khasaaray sababta up to now deegaanka Soomaalidu hadda waxa ka dhacay wax la yiraahdo military coup baa ka dhacay afgambiga military afgambi baa ka dhacay kama dhicin mid shacab maamulada kale wali lama bedelin lama nagas ninkii dadka Soomaalida baabiyay up to now wali waa present wuu joogaa maamulkii Tigreegu waa joogaan Xamaaradu sidoo kale waa joogaan
binishaangum baa la sheegay waxa gabadhii ka tagtay in laga qaaday canfartu maalinkii ay usan weli ka tegin xaylamaran baa laga qaaday xilka oo asagu siisa uga tegey inta kale waa dhisan yahay maamulkeedii soomaalida military baa qabsaday 4 agoosto xoog baa lagaga qaaday cabdi maxamed cumar dan uguma jirin ummadda Soomaaliyeed dan uma haynin ee deegaankaasa laakiin haddii ay fiiri hadday bedesho federaalka iyo haddayna bedelin wax dan ah oo Ethiopia ummadda Soomaaliyeed u haysa ma jirto waa tahay waa ku soo noqon Safiya adaan ku soo noqonayaa saa la socotid dowladdan nabad iyo nolol aad baad taageerayaashooda ahayd baa dhici karta waaga hore dadkoo dhan baa soo dhaweeyey waxay leeyihiin waxaan soo celinay haykal dowladnimo waxaad arkaysaa wasaarado inkastoo aysan xafiisyo lahayn laakiin madaxtooyada wasiiradii lagu qaabilayo oo laga jeegaraynayo canshuurahii oo la habeeyey oo wasiirka maaliyadda dadkuna isku raaceen arrintaas ictiraafka dibadda oo aad loo soo dhaweeyey madaxweynaha iyo oo maqaam sare la siiyey saasoy tahay waxyaalahay ku doodeen waxay leeyihin marka xalane iyo garoonka diyaaradaha baa madaxda yani nolol ku yeeli jiray waagu hore hadda nabad iyo nolol cid kastoo noo timaada waxaa loogu yeeraa madaxtooyada yimaadaan oo waxaa ka markhaatiya safiiro badan oo ka socday midowga Yurub waxay tageen madaxtooyada oo safiirkii Jarmalka ka mid ah Faransiiska ka mid ah Belgium ba ka mid ah laakiin markay noqotay safiirka Mareykanka Donald Yamamoto kale madaxweynaha isaga u yeeray xalana loogu tagay container yar oo qof walba arkayo baa madaxweynuhu warqadda kula wareegay marka madaxweynaha baa loo yeeray marka fasiraad badan baa laga bixiyay maadaama laftigaagu aad haysatid sharax Mareykana arrintaas maxaad ka leedahay horta anigu meesha waan ka soo shaqeeyay oo hadda ka hor waan ka hadlay oo waxaan ka shaqeynayay aid coordination-ka baan xubin ka ahaa aid coordination-ka markaan ku jiray waxyaabo badan aan access u lahaa inaan ogaado oo basically wax almost iga qarsoonaa ma laha oo shirarkan ka qayb geli jiray madaxweynaha mararka qaarkood prime ministerka wasiirada xalanaan tagi jirnay shaqadayduba waxay ahayd asbuucii ugu yaraan 3 goorna xalana tago markaan ugu yaraay haddaananba 5 beri tagin marka waxyaabo badan ay ogeysiisay waxyaabahaas u malayn maayo Mareykannimadeeda inaa Mareykan ahaydaas ay wax weyn inay ka bedelayso laakiin arrinta ku saabsan horta dawladdu wax ma hagaajisay anigu runtii xaqiraada ma jecli dawladdu marka aan eego markaan ka shaqeynayay xamar 2000 iyo adii ka soo bilow waxaan xamar tagay 12 ilaa iyo 2015 aan joogay inaan out ma ogtahay runtii marka laga hadlo isbedel weyn aan uga jeedaa xagga haykalka dawladnimo iyo institutions iyo sidoo wax loo qurxiyay iyo sidoo wax loo hagaajiyay wax badan aan u jeedaa oo wanaagsan marka in la xaqiro ma jecli arrinta ah waxyaabaha aan ka dagaalami jiray anigoo aan shaqadaydiiba uga soo tagay waxay ahayd bahdil badan aa jiray waaga aniga meesha joogay oo dawladdan ka hor bahdilka jiray wuxuu ahaa in madaxdeena hadda xasan sheekh baa joogay madaxweyne xasan sheekh iyo waxaan ku soo gaaray cabdiweli sheekh markuu prime ministerka ahaa baan ka shaqeynayay iyo cumar cabdirashiid labadaba waan joogay oo xasan sheekh madaxweyne ahaa dawladdeena markaasna ogow waxaana la siiyey aqoonsi caalami oo dawladnimadii ayaa soo noqotay transitionkii laga baxay ama ku meel gaarkii marka laakiin xalano weli waa la tagay oo annagaasaa sidaan ku leeyahay asbuuc kasta waxaan xalano u tagi jirnay shirarka ma garatay waxaan mari jirnay waa lagu jeegarayn annagoo villa Soomaaliya ka soo baxnay oo baabuurkii security oo villa Soomaaliya uu yahay ay arkaan oo baajidka wadana xafiisyadana villa Soomaaliya ku dhex yaaleen baan markaan tagno airport-ka bay rabaan inay ku baaraan inkastoo annaga ay xoogaana baari jirin because waxa keenaysa meeshaan ka soo baxnay gaarigay garanayaan gaariyadu way kala calaamadsanay marka waxaan ka wadaa arrinta ah in madaxda la baaraayo in madaxda ay tagayaan xalane horta way dhaantaa sidii hore hadda sida aan u jeedo oo European-kii waad aragteen waayaga xafiiska madaxweynaha iyo prime ministerka imaanayaan hay'adihii waaweynaa oo caalamka World Bank-iga iyo wixii xataa waxaan u maleynayaa inay shirarka u tagaan villa Soomaaliya anigu waxaan xasuustaa waagan ka shaqeynaya villa Soomaaliya World Bank maba ka soo bixi karin xalane absolutely xalane kama soo bixi karin shaqaalaha World Bank oo hadda joogo oo garanaayo markaan ka arko meetinada ma ayna ka soo bixi karin xalane in loogu tago xalane ahaan jirtay madaxweynaha hadduu rabo inuu la kulmo inuu ugu tago prime minister hadduu rabo inuu ugu tago halkaas inuu tago laakiin way isbedeshay arrintaas arrinta ku saabsan Mareykanka waa exceptional iyada macnihii
waxa weeye categories ay leeyihiin, categories ay dhigtaan. You know, haddaa website-ka gashid State Department-iga wadamada no-go zone-ka ah Soomaaliya waa ka mid. markii no-go zone ay kuugu jirto macnaheedu no-go zone English yaan isticmaalna marka af Soomaali dil af Soomaaliyeed waxa waaye wadamada aan Mareykanka citizenska Mareykanka oo ay ku jirto dawladdu yaa citizens markay dhahaan dawladooda ka mid iyo shacabkaba ma tegi karaan dalkaas markay yiraahdaan sida Soomaaliya oo kale wadamo badan ku jira Yemen iyo wadamo badan ku jira listiga hadaa fiirsan macnaheedu waxa waaye safiirkooda xataa ma geli karo magaalada dawladda Soomaaliya si kastoo horumar u sameeyso si kastoo beesha caalamka iyo wax walba aan maaragtay ay u imaanayaan villa Soomaaliya iyo xarumihii dawladda Mareykanka iyadu waxay leedahay category gooniya oo ayna ku darmanaynin beesha caalamka kale aan garanayno marka beeshii caalamka Mareykanka markay noqoto kuwii kale wax iska bedelaan Europeanka wasaa sheegto way yimaadaan laakiin Mareykanku markay State Department-igooda website-kooda ay ka saaraan information-kaas inaan la aadi karin Soomaaliya I believe markaas inay iman karaan magaalada soo aadi karaan dhexdeeda oo aan ka dhaxgale xalana waa Soomaaliya ku yaala ciidamo amisom wardiya madaxtooyadana ciidamo amisom wardiya marka dad badan waxay leeyihiin fasirku inta kaliya ma ahane waxa keenaysa madaxweynaha dhalasho Mareykan oo haysta mana ka tanaasulin sida darteed waa muwaadin Mareykan marka muwaadinkan Mareykanka safiirka madaxweynaheenu waxa uu safiira Yamamoto sida darteed bay leeyihiin marka adigu turjumaadaas la bixinayo ma waxa leedahay waxba kama jiraan you know arintaas Soomaalida wax badan ay falanqeeyaan u maleyn may arrimahaas inay culays leeyihiin aan waan ku sheegaa sababta waxa way madaxweynuhu haduu Mareykan yahay iyo haduuna ahaynba madaxweynuhu Prime Minister Soomaaliya ahaan jiray asagoo Mareykan Farmaajo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waa Prime Minister Soomaaliya soo noqday asagoo Mareykan waaga madaxweynayaashu sida Cabdiqaasim ka soo bilow Cabdullaahi Yuusuf ku dar Sheekh Shariif Xasan midna passport ajnabi ma haysan marka madaxweynahana safiirada qaabila marka arintu waa arin safiirka ma aha laga ma hadlayo la shaqeynta Mareykanka arintu ma ahan arinta laga hadlay waxa weeye waraaqaha safaaradda maxaa madaxtooyada lagu gudeemi waayay madaxtooyada baa ciidamo ajnabiga waardiyeeya sida xalana ay u waardiyeeyaan horta laba reason sababtan ku sheegaya xalana waxa loo isticmaalo horta hal sababan ku sheega oo guud waxa keenaya traveling-ka la diidaya traveling from xalana waa Soomaaliya yes laakiin waxa laga dhigi kana green zone sida Ciraaq oo kale waxa loo sameystay ciidamo ilaaliya security checks ay leedahay oo absolutely oo tiro badan marka anaga shirku u aadeyno meelaha qaar safaaradda Ingiriiska oo kale markaan tagayno iyo tan European-ka waxa maraysaa so many layers of security check adigoo dawladda xitaa waxaana keenaya green zone-kaas ay ka sameysteen xalane marka xalane I don't see Soomaalideena waxbaan falanqeynaa too much I don't think Farmaajo inuu madaxweyne yes waa dual citizen waa Somali citizen uu yahay inta aan ka warqabana tii Mareykanka ma una ka tanaasulin aniga kulli xogaal inta ahay de wax aniga public baan ogaa wax private aniga reerkiis iyo wixii hoos anigu ma ogaan karo laakiin inta aan ognahay kamuuna tanaasulin tii Mareykanka marka u maleyn maayo siyaasadda Mareykanka inuu safiirku tago villa Soomaaliya inuu ka bedelayso waa sidoo uu sheegay oo State Department-iga waxa ku qoran dalkaas lama tagi karo marka no matter what kind of citizen uu qofka yahay ama dawladooda ha ahaado ama micnii reasonka u sameynayana waa ku sheegaya especially citizenska wax loogu diidayo haday lacala wax dhacaan lama rescue gareyn karo hadda tusaalaan ku siinaya markii Kenya ay wax ka dhacaan oo kale ilaan safaaraddu Kenya caadi u degantaa Mareykanka yaa waa loo gurman karaa oo Mareykanka sharciyan waxa waay citizenkooda xataa qof simple person oo American citizen hadii meel lagu qabsado waa inay u gurmadaan ama meesha chaos ka dhaco waa inay dadkooda soo xareystaan laakiin madaxweynaha ku saabsan tahay waa la fahmaya warkaaga waa cadi Cabdi Udan aan ku soo noqdo arrintan arrin baad daba joogtaa waad ogeyd sida hadda ay Safiya sheegayso xukuumaddu waxay ku doodaysay haykalkii cashuurihii midowga Yurub baa dhaqaale badan siiyay 80 baana la siiyay mararka qaarkood way ka badbadiyaan oo lacago yani ama adeeqa oo la siiyay leeyihiin dayn baana la siiyay oo inkastoo waagi dambe la beeniyay bayle maalin dhaweyd mar uu lahaa miisaaniyadda hana loo ansixiyo oo baarlamaanku uu joogay
wuxuu lahaa wadamo badan oo yani ciidamada mushaar siin jiray waa naga goosteen annaga nabad iyo nolol ahaa kabayna noo ansixiya marka say isu qabanaysaa marka inay dhahaan lacago badan baan soo gala taageero badan baa helnay adduunkii baa nagu soo jabay iyo hadda inuu leeyahay waddan ma oran wadamo ayaa lacagtii ay ciidanka siin jireen naga goostay marka labada arrimood see laysu waafajinayaa horta su-aasha jawaabteeda intaan ku noqonin hal eray ayaan rabaa inaan ka dhaho su-aashii u dambeysay weydiisay Safiya fasiraadahan la bixinayo madaxweyne Farmaajo meesha uu ku qaabilay safiirka markii la fiiriyo waxaa jirta mid kale oo dadku intooda badan aynan sheegin laakiin u baahan isaga naftiisa in la cadeeyo oo macquul markii laga hadlayo xagga arrimaha siyaasadda markii laga hadlayo Mareykanku sida ay Safiya sheegtay waxyaabo u gooni u leeyahay laakiin waxaa jira Mareykanku wuxuu jaangooyaa wadamada reer galbeedka aba wuxuu jaangooyaa oo asaga iyagu ku daba faylaan cidda uu qalin guduudan ku qoro way ka cararaan reer galbeedka kale cidda uu qalin cagaaran ku qorana meeshu qalin cagaaran ugu qorana waa la aadaa marka Mareykanku Farmaajo maalinkii uu xilka qabtay ninkii hadda kan ka horeeyay la bedelay safiirkaasi wuxuu ugu tagay bilad Soomaaliya ugu tagay wuxuu u geeyay ninkii xusuustay oo dib baad u baari kartaan qofkii xusuusta wuxuu u geeyay koofiyad dheer oo buluug ah oo calanka Soomaaliyeed laakiin xidigtii shanta ahayd aynu ku qorayn aynu ku sawirayn oo ay ku qoran tahay make Somalia great ay ku qoran tahay arrintaas calaamad su'aal weey cid fahantayna ma jirto waxa uu la dan lahaa safiirka kan ka horeeyay laakiin waxa loo turjumi karaa oo ay noqon kartaa in ay rabaan wadiiqo kale oo Soomaaliya lagu wado inay jirto waxaan Soomaaliya jooga oo dhan ayaga lacagta siiya reer galbeedku oo Mareykanku kuru yahay marka Soomaaliya meel baa lagu wadaa laakiin way inaga dahsoon tahay waxyaabaha kaliya ku soo baxbaxaya vibrationka aad arki buuqbuuqda sameynaya waxyaabaha inaga Ethiopia isku darsan oo kala ayaa kamid ah marka haddaan su'aashaada dib ugu soo noqdo horta dhibaatada inaan haysato waddankeena haysata waxaa weeye wixii laynoo sheego waxaad ku tixraacdo oo qumano ma jiro waa wax walba qofka kuu sheegayay meelaad ka tixraacdo oo la arki karaa ma jiro wax transparency meesha ma yaalo keliyatana waxaan ku qaadan karaa waxa ay wasiiradu inoo sheegeen khaasatan wasiir Beyle oo kale inoo sheegay marka aynu dib u fiirino waxaynu u baahannahay dalkeenu waa dal burburay laakiin waa dal qani ah markii dal ahaan laga leeyahay waa dal qani ah laakiin dadkiisu uu sabool yahay wadamada noocaas oo kale ana waxa lagu faano waxa weeye dadka in la kobciyo dhaqaalaha la kobciyo dadka isku filaansho lagu kaxeeyo oo marka dambe dalku isku filaansho gaaro laakiin waxay hadda madaxdeenu inoo sheegaysa waxa weeye waa deyn cid kale laga soo qaaday waa culays dalka la sii saaray weeyaan aniguna taafaan iyo uma arko haddii billions dollars oo deeq yani deyn kale la keeno oo IMF iyo World Bank ay lacag badan oo kala keenaan innaga inooma afaan ee waa culays bulshada iyo dalka la sii gelinayo way qofka lacagta ku keenayna ee deynta ana waxa daba socota waxyaabo kale oo ay tahay inaad fuliso oo waxa ugu yar inta badan ay dadkan deymaha ku bixinayaan waxa marka u yartaa waxa lagu dhihi khaniisiinta saxiix oo wax dhaqankaaga ka soo horjeeda ama diintaadii ka hor imanaya yaa daba socda marka waxaas aanu hadda faano ma arko waxaan isqabanaynin oo hadda saad aad u sheegtaan isqaban karin lacagta canshuuraha ka soo gashay waa lacag koob sidaynu ognahay dawladdu canshuuro rasmi ah ma wada qaado waxa ugu badan soo gala waddanka waa dekedda Muqdisho waxa ka soo gala iyo airportka waxa ka soo gala canshuurtii dhulka lama qaado haddii la qaadana waa wax yar oo kooban lacagtaas marka la isu geeyo ma noqon karto lacagtan ay sheegayaan ma noqon karto waa inay marka jiraan laamo kale oo dahsoon oo dhinaca oo aan dadka loo sheegaynin oo dahsoon oo siyaasado kale oo ruux riixaya waa inay jiraan haddii dadka loo sheegana xasaasiyadeeda leh dawladdu waxay hadda ku soo kaban laadahay dhiibistii muwaadinka qalbi dhagax iyo ururka oo nala argagixisada ku dareen ee ka soo kaban laayeen waxay ka soo kaban laayeen oo hadda culays kala ah Sacuudiga ay la safteen ay Canada kala safteen Sacuudiga ay Turkiga kala safteen ee ka soo kaban laayeen waa u soo noqonaynaa cabdi waa u soo noqonaynaa laakiin
see isu qabanaysaa inay dhahaan midowga Yurub baa u yimaado dhaa lacag baa ina siinaa badan amaah badan baa nala siiyey haddana ay dhahaan mushaarkii ma hayno marka ma lacagahan hadda safiir sheegayso baabuurtii lagu raray oo kala wixii lagu qarash gareeyay mise wax kala jira marka taa kaliya tama reer galbeedku waa wax lacag iskama bixiyaan lacagta ay bixinayaan waxay rabaan dabagal iyo cadayn iyo wax ballanqaad bay sameeyaan ayagu inta badan marka lacagta way ballan qaadayaan lacagtii lagu ballan qaaday haddii intaasoo trillion lagu ballan qaaday laakiin ayna gacantaada ku jirin kuma go'aan qaadan kartid sida ka muuqata marka beyle iyo waxa weeye dawladda waxa loo ballan qaaday ballanqaadyo lacageed iyo mashaariic baa loo ballan qaaday laakiin ma iman doonaan weeye waxa ay ka hadlayaan ayagu marka waxay rabaan inay miisaaniyadii marsadaan haddii lacagtii la helana dee lacag intii ka badan bay u noqoni wixii ay marsadeen wax ka badan bay u noqon oo dhawaan cid kulma xisaabtami doonto sida u muuqata waa tahay waa ku soo noqonaya waxaan u gelayaa Axmed Maxamed Axmed sida la socotid maalmahan waxa la leeyahay gabra la xiray hebel askar kuwa qunsul u joogay Soomaaliland baa la xiray iyo kuwa Puntland joogay cadaynay ilaa hadda xataa gabraha naqaan in la xiray waxa saakan soo qornay haddeera marka miidiyihii dadka isweydiinay waxa leeyahay gabre lama hubo kaba soo qaad ba in la xiray gabre saad og tahay Soomaali galbeed baa hadda la laynaya mooyaale xasuuq baa ka socda tulli guuleed iyo meelihii jigjiga wixii lagu sameeyay askartan hadda ciidamada magaalooyin galaysa Soomaali galbeed state baa xataa wali dhisnayn marka ma kula tahay in Abiy Ahmed hadda diyaar u yahay inuu leeyahay Soomaaliya saraakiishii dhigtay oo nafta u keentay dadka Soomaaliyeed waa ganaaxaya mise waxaan hadda ay sameynayaan waa arrimo ayaga sidii mingistaba awal loo ceyrsho kale waxaan hadda waa wax dhexdooda ay wax anaga noqosaya ma ahan ku soo dhow bismillah abdulwahid oo intaan taagul arinta Soomaaliya had safiyo abxis ka hadleen horta khalad bay Soomaalidu gashay aan u maray waliina khaladkaas inaga harimaayo waliina waxna kama barano khaladka waxa weeye booska inta la eg ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama wasiiraha in dad dhalasho kale wadan kale mabaadidiisa iyo nidaamkiisa iyo dastuurkiisa iyo u soo dhaartay horta in loo dhiibo anu waxaan arkaa waa khalad weyn Itoobiyan hadda aragtay agaasim looma ogolo qof dhalasho kala haysta agaasim looma ogolo iska daynagana qof passport kale ajaanib ah haysta inuu madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wasiir ka dhigan muhiimadu waxa weeye qofkaasi bari waa ciyaarta haday xumaatana lugta waan kala bixi golayda tiraday ciyaartu agtan lugtaan kula jiri way meel waxay noqotay wadamo kale u soo shaqateeyaan farmaajo wixii hadda ay Mareykan ku xumeeyaan toos uga ma hadli karo waa nin Mareykan khayr waa nin Norwegian kama hadli karo wixii ay sameeyaan horta khaladkaas in wax laga bartay ahayd oo waqti badan soo maray umad Soomaaliyeed wali waxba kama ina barin hadda waxa uu leeyahay shirkii Jumcada Qurmaha ka dhaxaysa madaxweynuhu ma tagin farmaajo ma tagin wuxuu tagi waay laba madaxweyne oo Mareykan oo Mareykan haysta Mareykan ma wada tagi karaan safiya kullu iga aqoon nidaamka Mareykanku yahay laakiin sida adiga aqligaaga ku cad laba passport nin oo laba dhalasho Mareykan guri Jumcada Qurmaha ka dhaxaysa wada fadhiisan karim hayaan marka horta waa khalad jira tan aan soo dago Somali state بريجي تكرار وطن كسوقلين سراكيشي حمارة درجي وقابتين وحير مونيتي دمر كده بويسيد داي هذا هل نبالوبا نكي أو قيب تكبست ورشدها ملتري حق سهستي نكاس أو لوش شيء وش شيء ما هين حلوش شيء corruption إنه هنتلو صلي ولي قبل ما صوبحين لكن ده كان الصومالي دول نبقى أنا هيستمت قانا وحين إنه وتشعل الله أيانو بحنا إنه ده قلبي قف كستو حضانو حاجة كوسو قولي واربعين تين أوفيسو وحنا وحبك كتير بيبغالكي بس دي كان سوق قرآن والشيغان وأيجا يعني عقل وضعان وحنا إنه وتشعلان لين قبلين لحلو سرعيش تكراجع يدك الله يسير لما حتى إلا أمضي الصومالي باب يسير جودها الصومالي تيجي شدتك قحيسين لبعتنا وجي يسير أنت صبغوا لكم بالصومالي البابية ومحدود ده هو بابيو الصومالية إثيوبيا لا داي أما جودها هاتو أما صومالي استيت با هلو رمية قبل ولي لما حرين لكن ماشان أي صومالي واحد كوسو قرطة وعلو شيئا قبل الحرين لكن ولي إثيوبيان كأنتي الشيئان أما وربعين تلصق فلسطين الدهان أنت صو سراكيل عن حني وحي الشيئان وهو سوي ترتاح لكن واحد ولي لما هيو
ilaa maalinkii hore cabdi wax warqabteenba waxay lahaayeen waanu xinnay saraakiil baxay laakiin hal ogow marra adiga lagu qaban maayo qof soomaaliyu ninkan dilay kaa ku fikir soomaalidu ma aha innaguna cadiifada dhibkayna haysta waan cadiifadagna waan jacayl dhownahay waana nacayb dhownahay dhibkayna haystaa nacaybkeennina waa dhow yahay jacaylkeennina waa dhow yahay etoobiyaanku mabaadii bay leeyihiin innaga soomaalida dowladyaanka Somali state kuma xisaabiyo Ethiopia dad la haystay dad la haystaan ku xisaabiya laakiin inta kale Ethiopianka li Ethiopia and not bay dhahan dadka Ethiopianku waa isku mid hadda warbaahinteeda fiir waxbaan ku sheegay Cabdi Waahid warbaahintooda hadda dhageyso ilaa dagaalkii bilowday markii Cabdi Maxmar ilaa wixii ka soo horeeyay ta dowladda federaalka Ethiopia iyo midda dibaddaba dhageyso dhammaantood waxay leeyihiin waxa dagaalamaya dad Ethiopiana iyo dad shufta oo Soomaali ah waa tahay waxaad muddo xoogaa inuu adkaaday daawadayaal waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaahid Cabdullaahi Khaliif waxa martino aqoon-yahano badan Safiya Yaasiin oo kale Cabdi Udan iyo Axmed Maxamed oo arrimahan geeska Afrika guud ahaan iyo arrimaha Soomaaliya ku xeeldheer gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadano gacan saarna mucaaradka lama lihin cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa laakiin danta guud waa mid gooriya ayaan gabagabada hadalku waa sidii guujis Allah u naxariistay u lahaa aan ku garowne gaar hayow geyga ilaali waxaan idin keenaa hal doorkii Soomaalida oo culmadii leh dhaqaatiirada kale iyo aqoon-yahanadii maadiga hal abuuradii hoobaladii iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada rag iyo dumar iyo waliba dhalinyaro iyo waayeel barnaamijkuna waa ku saabsan yahay arrimahaas geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha Soomaaliya Safi adan ku soo noqonaya waxaan anaga ku soo dar Cabdi Waahid dhamaysto Cabdi Waahid mooyaal hadda dagaal baa ka dhacay dagaalka hadda mooyaal ka socday waxaan daanta kale horta mooyaal boqolkiiba 90 Soomaali baa boqolkiiba 90 dadka degan waa Soomaali deegaamada ku xeeran iyo qabalayaasha ama tuulan ku xeeran waa Soomaali oromadu dhanka qorxodha bay ka degan tahay dhankaas kaga soo duushaan waxaan dhageystay raadi Axmaari ah nin halka laga wareysanayo duqa magaalada inuu yahay maleynay wuxuu yiri ma taqaanaa waxaan ugu soo duulay al-shabaab baan la dagaalamayna maatiya caruur baa la laynaya ugu wata meesha waxa lagu laynay waa maatidii caruurtii ma garatay marka horta Soomaali dadka Soomaalidu Etoobiyaanka sidaas ka yihiin wala oromaha haato wala haato markay ku noqoto adi Soomaalidu noqoto iyagu mid bay noqonayaan dad baa dhahdad islaam oo oroma fiir dad baa dhahdad Soomaali oroma xuduudna leh dadka islaamka ah ee deegaanka Soomaalida aan ka ahayn iyo dad afar hooyar aan ka ahayn dadka lagu sheegay islaamka Ethiopia lagu leeyahay markii la dhaho Soomaali baa tahay Soomaali bay dhahan waan maqli jiray inaan muslim baa tahay markii la yiraahdo Soomaali dadkaas way dadka aynu islaamnimo ka sugayno ama mid kale dadku ilaa milidqi labaad kii koobaad xil salaase mingisti intu dadku waa la kristaamay haylaanka degan oo dhan waa tahay Safiyo waa ku soo noqonaya marar badan baa ka hadalay arrimahan khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada hadda saa la socotid soo maqli Safiya go ahead saad u og tahay waxay ahayd doorashadii koonfur galbeed inay 17 oo shalay ahayd dhacdo dib baa loo dhigay shariifkii meeshii ka bax marka ma isleedahay sidan dawladda dhexe wax u rabto bay arrintu u toosaysaayo qofkay rabeen baa imaanaya mise meelaysan xisaabta yani waxaysan ku xisaabtamayn baa dhici kara marka see kula tahay xaaladdu horta taa intaan u gelinin arrintii ku saabsaneed dhaqaalaha oo soo galayay dawladda iyo beyl inuu yiri nama soo gaarin dhaqaale waxaan rabaa inaan arrinaan xogogaal u ahay inaan ka sheego halkan oo ku saabsan ballanqaadyada beesha caalamka maadaama aidka coordinationka aan ka soo shaqeynayay oo aan xogogaal u ahay arrintaas horta beesha caalamka siduu walaalkay sheegay markay yiraahdaan waxbaan bixinaynaa ballanqaad weeye oo ma aha wax badan inta badanna bariga hore waxay sameyn jireen xataa hadday wax bixinayaan waxay soo marin jireen hay-adaha caalamiga ee dalka shaqeeya sida United Nations oo kale World Bank oo kale oo wax dawladda toos ugu imaan jiray dhaqaale toos oo account bank central bankiga Soomaaliya ku soo dhici jiray ma jirinin
waaga aniga ka shaqeynayo oo dee dowlad sax ahaana la haystay xasan sheekh dowladdiisii waxaan anigu markhaati ahaa waxyaabaha cajiibka idin sheegaya oo ku saabsan marka la idin yiraahdo lacaga la bixinaya oo beesha caalamka itiraado waxbaan bixinaynaa shirki Brussels 2013kii Brussels lagu qabtay la yiri wuxuu noqonayaa new dealka waa huba ina garanaysaan intiina badan waxa lagu ballan qaaday 2.4 billion waa with B in Soomaaliya la gelin doono adiga I think 3 sano soo socotay inay dhaheena u maleynaya markii dawladnimada ay qaadatay transitionka ay ka baxday you know 2015 shirarka aan geli jiray oo hadaa idin sheegayo dawladda aid coordinationka waxaan samaysan jirnay shirar update la siinayo every 3 months oo la soo bandhigayo mashaariicda iyo waxa wadanka la keenay iyo waxa ay beesha caalamku bixisay waxaan xasuustaa madaxweyne xasan sheekh oo shirka joogay maalin March I think in March in ahead umalena 2015 oo hadda ogow markii la balaj gareeyna waxay ahayd 2013 dhamaadkeedii almost hal sano iyo xoogaa kadib waa 8% xataa dalka ma soo gelin dhaqaalihii 2.4 billion ay ka hadleen 8% xataa 8% kaas dawladda directly looma siinaynin dhaqaalaha waxaa loo soo marinaya hay'adaha idin sheegay hay'adaha bahalkii World Bank iyo United Nations ka qayb ay leedahay oo United Nations Fund qayb la dhaho oo qaabilsan inay mashaariicda wadanka soo galiyaan marka xataa haddii mashaariicda dalka soo galiyaan 100% mashruuca ma aha lacagta la siina Soomaaliya la siinayo hadday u bataan waa 15% 20% marka waxaan iyo ballanqaadyada la sheegayo horta halka taa ka ogaada waa wax iska afbaarkiis ah taas waa mid tan labaad marka ay beesha caalamka ay ballan qaadayeen in Soomaaliya deynta laga deyn doono in dhaqaale la siin doono in wax walba la hagaajin doono oo iyagii oo dhan ay u soo yaacayeen waxa la arkay in Soomaalida is wada raacday they were surprised beesha caalamku way yaabanayeen Soomaalida wada jidbaysan oo farmaajo loo digrinaayo oo markuu maamulada tago ciid uu dhulkii u soo baxayo oo dawladdeeda lagu hayo oo haddaba dawladdu maxay sameysay marka iyagoo taageerada maalin waxaan ka hadlay blank check ay haysteen taageero 100% oo waxay rabaan ay ku sameyn karaan maxay sameysay dawladdii xamar waxay bilowday inay la dagaalanto maamuladii markii la dagaalanto ay conflict abuurtay dawladda federaalkana conflictiga abuurtay because waxay rabaan federal systemka inay tuuraan cadeyn baa loo hayaa inay federal systemka ay rabaan inay meesha ka tuuraan federal systemka dadku way dhisteen iyagaa dhistay especially maamulada hore u jiray oo kale oo dawladdan ka horeeyay iyagaa dhistay now markay conflict abuuraan oo beesha caalamkana awal lagu yiri waxaan haysanaa unanimous support oo public Soomaaliya shacabkii public wayna wada taageersan yihiin oo ay calaamadihiina tuseen afarta inta maamulo dalka ka jirta marka laga reebo Soomaaliland markay tageen ummadii ciid u dhaqaaqday iyagoo taageerada haysta maxay sameeyeen waxay bilaabeen inay yiraahdaan waxbaan burburinayna now beesha caalamka markay arkaan conflict inay abuuranto dhaqaale ma bixinayaan hadda arrinta aad ka hadlayso leedahay baylu wuxuu yiri dhaqaalihiina la yiri waa la siinaya la siinay I believe in sababta loo joojiyay ay tahay number 1 taan sheegay oo ah badana afka baarkiisa ah حتى هذا معدين أديد معان دولد إني challenge جريان يرادان أوكي benchmarks كي واحد نودر تانو دنوان ميت جريني وين إسكود دايان دولد إني رنتي سمايان يا أوري بارجي is going down مركو وحن كسو وذا إيجار هذا وحن كسو وذا دولد ده مركا أي conflict أبورتو يا بيش عالم كومسينا يسو wixii ay ka balan qaaday oo waxa ka garanaysa beesha caalamku waxay bilowday inay aado maamulada hadda Puntland soo ima aragtaan si fiican tusaale ahaan markii la isqabsaday oo ay South West burburiyeen oo aad aragteen waxa ka dhacay South West Sharif Hassan asaga wax ka yimid sidaa sheegteen uguma tagin meesha waa la force out gareeyay waa la qasbay inuu meesha ka baxo ultimatum la siiyay ciidamada Etoobiyaanka oo meesha jooga ultimatum siiyay choice ma uu lahaa oo nin ciidan haysta u gaaray isagoo isku ilaalinay ma marka waa inuu tartiib u baxo laakiin macnaheedu ma aniga ma aaminsan Sharif inuu tagay oo siyaasad uga baxay marka waxay ku tusinaysaa waxaasay arkeen beesha caalamka of course maamuladu waa dacwoonayaan markay arkaan in dawladdii dhammeed ay u soo maaragtay taageereen oo 100% ay taageereen xataa reservation ma ayna ka samaysanin maamuladu aniga inta aan ka warqabo shirarkay tagi jireen madaxweynaha waxay la diyaarinayeen iyo prime ministerka sidii loo qaybsan lahaa kheyraadka
ما قان إنا أد سعتين شركة مركي معمولة تجان حمر أنت على سقفسن كور وحي كل شقينيين سيد خيرات كله وذاقي لها سي وحلا يرادو فيسكال فدراليزم أو سيد عنشورها ودن كورنا الله مدين لها دكلها عنشورها كسب بحور دندلك الله مدين لها عنشورها الشعب كلا قاعد سيد الله مدين لها بوحى لقل الشقينا يوسير كماليد بيلي يا هوشيو سموث وسعت بي انتو هبين سحدين واقع وبريي بي وحي بلابين يرادا مامولودان بربورنينا excuse me so maamulada haday burbursid halkaas uu ku joogsanaya wada shaqeyntii waxa kale halka ku joogsanaysa beeshi caalamka oo u qabtay Soomaaliya inay hore u socoto kalsoonida ay kugu qabtay federaalku ayaga faylaha isgooyay ayaga ka shaqeeyay in hadiiba dhaqaale la siin lahaa laga joojiyo legitimacy-gooda xataa hadda khatar ugu jiraa in dib looga qaato wixii la siiyo supportigi because waxay keenaysaa burburka ay iyagu bilaabeen South West way burburiyeen runtii doorashada hadda ka hadashay arrintii doorashada aan soo noqday iyadoo iga raaliya waa ku dheeraaday 17 waxayna doorasho u dhaceynin meeshii conflict ka abuurtay dawladdu waxay rabtaa nin lafta garaan la dhaho oo ay wadato in ay meesha geysato su'aashu waxay tahay lafta garaan ma rabaan South West shacabkeedu majority-giisa ma rabaan waa su'aashi because candidate badan jira candidate badan jira oo dadkii u soo oo Shariif kamid ahaa Shariif meesha laga saaray oo asagoo choice-kiisa ayna ahayn now nimanka kale ee tartamaya shacab bay leeyihiin taageerayaal ay leeyihiin dawladdu markuu waxay rabtaa waa sidii governorska aan maalintii dhoweyd ka hadlayay loo soo magacaabayay baa wali waxay aaminsan inay sameyn karaan because waxay iska dhaadhiciyeen shacabkii ciida ahaa oo idin soo baxay markaad maamulada tagteen kalsoonidooda hadaad haysataan saarabtaana ka yeeli kartaan waxay iloobeen waa tahay waxa dhici karta in waxaan xisaabta ugu jira inay ku soo baxaan sida Sheekh Mukhtaar oo kale warkaagu waa cad yahay waxaan u imaanayaa haddana Cabdi wadan Cabdi ku noqon hadda arrintii muhiimka ahayd oo geeska Afrika saddexdii hogaamiye madaxweyne Farmaajo iyo Abiy Ahmed iyo Fawarke xayiraadii hadda Eritrea waa laga qaaday annagiina waana loo diiday madaxweynaha uu ku faanaya marka maxaa khatara ku jira maxaa faa'iido ku jira xayiraadaas hubka laga qaaday ee madaxdeenu ay ku faanayso leeyihiin annaga ka dambayna waxa xaqiiqiyan markaad arrintan dib u dhooqdo aad fiiriso dhowr arrimood baa laga hadli karaa oo meelo badan baa laga istaagi karaa saddexdan inay meesha isugu yimid meesha isugu tagay nin way ku ciirsanayd oo nin wuxuu ahaa dictator oo muddo dheer waddankiisu uu go'doon ku jiray laba nin oo ku cusub siyaasadda yacni siyaasadda markaan ku leeyahay ku cusub waa xukunka dalka inay hogaamiyaan waa Ethiopia iyo Soomaaliya laba nin oo ku cusub ay ahaayeen haba kala hormaraan labadaba waxay ku yimaadeen kacdoon bay ku yimaadeen kacdoon marka la dhihi karo yacni Soomaaliya markaanu leenahay kacdoon shacab wuxuu ugu imanayaa shacabka rabitaankiisa nooca ahaa oo marka uu yimid ka bacdi uu dadku kacay ilaan marka hore cod mayna ku lahayn imaanshihiisa laakiin guuxii iyo rabitaankii shacabka iyo meesha ku yimid abina sidaas oo kale ahaa laakiin waxaa muuqata labadooduba ajendayaal kale oo meelo kale looga soo dhiibay oo aan waddankooda ka turjumaynin ay ku hawlgaleen labaduba waxay indhaha iska tireen siyaasadii gudaha arrimaha gudaha iska indha tireen Ethiopia gudaheeda way gubanaysaa Soomaaliyana gudaheeda gubanaysa labadaba inta iska indha tireen bay markaa siyaasad kale oo laga yaabo in dalal kale oo shisheeye oo aad inooga fog ay ku lug leeyihiin oo in geeskan Afrika la mideeyo ay ku shaqeeyeen taa waxaan uga gol leeyahay fikirkan isaga naftirkiisa 3 sano ka hor hal sano marka u dhimaneed Xasan Sheekh waddankan aanu ku noolahay caasimadiisa Oslo Norway ku qabatay wasaaradii arrimaha dibadda shir bay ku qabatay ay ka soo qayb galeen safiirada reer galbeedka ee arrimaha Soomaaliya u jooga UN-ta ka EU-da way wada joogeen waxa laga hadlayay wuxuu ahaa bariga Afrika sidii looga dhigi lahaa hal dal oo marka ayada ahayd dad Soomaali ah lagama talagelinin ayaga laakiin soo bandhigeen naqshad bay soo bandhigeen ay leeyihiin geeska Afrika in hal dal laga dhigo sidii looga dhigi lahaa waxaan hadda la socdaan fikirkan ay la socdaan buu ahaa marka waxaan isleeyahay nimankan waxa ku shaqeynayeen fikir ka baxsan oo loo dhiibay bay ku shaqeynayeen laakiin markii la dhaho khatarta ku sugan innaga Soomaali ahaan wax maslaxada oo inoogu jirtay ma jirto because waa midaan hore u sheegay dal waxaad heshiis gala waa marka koobaad dal dhisan
oo hay'adihiisii iyo institutionskiisii ay wada diyaar yihiin ciidamadiisii sirdoonkiisii booliskiisii ciidan yacni waddan diyaarsan oo cidda soo gasha iyo cidda ka baxaysaaba ay register garaysan yihiin oo lala socdo qofka kuu imanaya shaqada kuugu imanaya iyo qofka dalxiiska kuugu imanaya aad la socon karto dalkaasaa heshiis dad kale la geli kara laakiin inagu meeshii ma naalaa waa maya marka labaad heshiis marka aad gelayso labada dal waa inay dano ka dhaxeeya ay jiraan laakiin nin kale aan ku cuno oo caqligiisuba uu ahaa inuu adiga ku liqo haddaad tiraahdo hoo illiq ood bannaanka isu dhigto ayadana waxay noqonaysaa waanada disaster kala wey marka laakiin waxaa dhinaca markii laga fiiriyo oo hadda dadka qaarkood u sacabinaya fikirkan isaga waxay keliyata ka eegayaan fikir hoos imanaya fikirkan ay safiya ka hadlaysa ee dowladda iyo maamul goboleedyada iyo salka ku yeelanaya oo wuxuu ugu yeelanayaa dowladdu waxay istustay maadaama xildhibaano ay soo dooran doonaan madaxweynaha dambe ee la dooran doono inay ka fikirto qaabkii xildhibaanada ay iyadu ku yeelan lahayd waxay diyaarsadeen hadda oo weli baarlamaanka laga ansixinin xeerarka axsaabta yaa la ansixiyay intaadan xeerarka u noqon cabdiyow nin mucaarad ah oo ka tegey eritrea oo abraham eziri wax saasaa la dhahaa all africa.com wuxuu ku qoray afawaarke oo abi axmed ku leh intay hadda shirayaan ku leh adigaana hogaaminaya responsibilitygii iyo powerkiiba adaan kugu wareejinay abi axmedna waa tuu shirka ka lahaa shirki jiraad waa tuu ka lahaa 3 madaxweyne oo dambe ma jirayaan marka hadda koofidii aad ka hadlayso oo lahayd xidigtii waa laga gooyey iyo wixii misku soo aadeen ma taa iyadu cidnaba kama qarsoonaba dadka elite-ka kama qarsana arrinkan isaga fikir ay ummado badan ka shaqaynayeen oo dadkeen iyo dalkeena cadow ku ah weeye innagu waxaa laynoo arkaa asaliyanba dad cawaana oo maaragtay iska ugaadh oo kala oo wild ah oo aan heshiin karin barwaaqana ku fadhiya marka barwaaqadeena la rabaa dhulkeena dadka lama rabo dhulka la rabaa in la qaato ama si kale looga faa'iideysto ummado kale oo inaga fara badan laynagu sii daayo taa way ujeedka rasmiga laakiin markaad xataa raacdo ee kuurgasho dadka elite Eritreankii way ka soo horjeedaan arrintan isku darsanka waxay uga soo horjeedaan way taageersanayeen heshiiskii Ethiopia iyo Eritrea ee hore way taageersanayeen laakiin fikirkana hal dal baynu isku noqonaynaada way ka soo horjeedaan waxay leeyihiin oo ku soo noqonaya arrintii xildhibaanadana waa ka hadli doontaa waxaan u gelayaa Axmed Maxamed saa sheegaysi Djibouti baanu ka hadlaynaa Djibouti markii laga hadlayo dad badan oo Soomaaliya waxa qaadaya waxay leeyihiin abaal buu nagu leeyahay carte arrintiisii af Soomaaliga uu qoray ciidamadan uu soo diray laakiin waxaad moodaa Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliya sidii la rabay inuu isugu dabarido ma samayn waxaan ka garan kartaa Somaliland oo daris la ah oo xataa qabiil isla sheegtaan sida qabiilka dir oo kale ina cigaal iyo riyaala iyo hadeer boo ka soo horjeeda Puntland sidoo kale geesku gashay carte wuxuu dhisayay nimankii dhulka haystay sida ina cigaal iyo Cabdullaahi Yuusuf waa ignore gareeyay marka waxaad moodaa inuu kas u yeelayay inay Soomaaliya saa ku jirto maanta waxay ku fiicneed haddii laga hadlayo geeska Afrika madaxweyne Farmaajo iyo asagu inay iswataan oo labadan nin oo ayaguna isku luqadda Axmaariga yaqaan ay caabiyaan taasi ma dhicin hadda Djibouti maadaama geeska Afrika aad u taqaanid Somali State iyo Djibouti maxaa ka dhalan kara maxaa Djibouti hadda una qabateyntan Eritrea laga qaaday iyo marka la fiirsho maxaa ku soo wajahan Djibouti bismillah Abdulwahid waxaa la yidhi wax fudud oon faras ahayn faa'iido ma leh dowladdan federaalka ee Soomaaliya Muqdisho fadhida khaladaad badan bay ummadda Soomaaliyeed gashay abtunaa way ka sii gelaysaa weli walaaladeen Djibouti oo ogtahay inuu dalka maqan yahay oo dadka maqan yahay nin baa wuxuu yidhi war dadkaas labadan nin maxay isku haystaan markaasuu yidhi waxay isku haystaan beerteeda labadooda xuduud baa wuxuu yidhi yaa isku soo midabada kale way u gudbay oo taydaaba u dhaxaysay buu way taydii meesha uu Farmaajo ka imaanayo Asmara ma ahayn waxay Ismaaciil Cumar Geelle inuu tago heshiis la soo galo markaa ka bacdi madaxda Soomaaliyeed loo yeero oo lagu soo jiido
midooda laakiin hal baan kuu sheegaya isbahaysigan hadda la sameeyey wax ummadda soomaalida dhibaato mooyeene wax faa'iida oo ka soo gelaysa ma jiro ilaa Somali state ilaa Soomaalida kaleba because waad ogeyd Tigreegu dhibaatada inoo geysteen ummadda Soomaalida u geysteen kuwa 60 milyan oo xuduud kula leh oo ku kala yaqaana waad ogtahay ilaa 60kii waxayna la degan qoomiyada dhan oo Oromo oo Soomaaliya kula yaqaan oo deris kula oo kula sheeganayaba inayba Soomaaliba igu leeyihiin Soomaali geeska Afrika dad raacato xoolo dhaqataa ka ahaayeen way ka sii xuyeen Tigreeg faa'iidada u badan ee heshiisyadan laga gaaray waa kow wax ka helay culayskii haystay dictatorka xunka Isaas Afwerki sababta waa 3 milyan oo dadkiisa dibadda ku nool saasoo dadka Eritreanku waa ka mudahaaradeen markuu hadda marayay Jarmalkii iyo marayay Faransiiska iyo heshiisyada uu ninkani ku khaldayo way kala digtooyin weyna waana dad inaga xadaarisan inaga oo mar lagu khaldi karo sababta 1930kii baa la khalday Eritreanku oo markii Ethiopia hoggaan wakiil la qabsaday oo Ethiopia ku habsatay marka marra ka yeeli maayaan horta waxaan Eritreanku dantooda ahayn ama shacabka Eritrea ama qoyahamiinta Eritrea horta ka yeeli maayaan ninkan dictatorkana uu iska tagay mar dhow iska tagaya marka inaga ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Djibouti labaduba khalad baa laga galay iyo dulmi ummadda Djibouti laba jeer baa khalad laga galay abay uu yeeri karay Djibouti Ismaaciil Margeele uu yeeri karay markii hore uu heshiisiin karay laakiin maxaa dabada yaa ka waday dawladna Imaaraat baa ka waday oo isku dhacsan yihiin Djibouti dhaqaalaha u badan markuu qabsaday yaa siiyay dhaqaali u badnaa yaa siiyay ninka la yiraahdo abay Imaaraat baa siiyay waad ogtahay shidaalkii hadda ogadeen in lagu wado in Eritrea laga dhoofiyo oo dhuumihii ay Imaaraat ku geeyeen halka waad ogtahay waxaan oo dhan horta ama heshiis oo dhan waa wax aan Carabtu ay wadato ay wax ummadan Afrikaankan labada niman ee madaxda saddex madaxda Afrikaanka ka yimid maaha waxaan oo dhan dhibaatada salka waxay ku haysaa Chinese-ka see dhulka looga saara ama geeska Afrika uusan awood ugu yeelin maadaama Djibouti uu degan yahay waxaas oo dhan reer galbeedka ka sii dambeeya Carab baa laynoo soo maraya markii Carab laynoo soo marana Ethiopiaanku ogtaa awoodooda waad ogeyd ninkii oo qaybta ammaanka u qaabishanaa 4 sano ka hor baan u malaynayaa ee Sacuudiga wuxuu yiri geeska Afrika buuri ha lagu wareejiyo Ethiopia lagu wareejiyo barigaas oo hataa hayla maaris la geysto waxaan ka jirin bayuu ha lagu wareejiyo axmedow waa sax waxa sheegaysa laakiin nooga faa'iideey Djibouti qowmiyadaha dega sida wax khatarta ka socota marka iyada ahaan hadda fiiri khatarta aan ku sheegayaa dumeera iyo dhulka hadda xuduudka la leh deegaankan la leh Djibouti afar baa degan waa ogtay xuduudka Soomaalida inta Djibouti ay ka leedahay ay Soomaalida ka gashay afartuna dhan kale ama afarta Eritrea ahaato ama afarta Ethiopia ha ahaato ay dhanka kale kale yihiin waxaa jira mucaarad baa hadda ka maalin dhaweyto ka dhashay mucaarad Eritreana waxay joogi jireen Addis Ababa joogi jireen istiyaas isagoo loogeyn buu yimid inta hadda shirkan usoo dhicin ka hor buu si dhaqso ah ku yimid maalin buu joogay uu yimid afarta wuxuu la kulmay mucaaradkii Eritrea la kulmay aamusa la yiri layd kama maqli karo sidii bay ku dhamaadeen kuwaas hadda waxa la aas-aasi doonaa waxaan kuu sheegaa fiiri mucaarad canfar oo saldhigoodu uu labada oo marna ku sheegan u malaynayaa Ethiopiaanku iyo dadkan Abasiiniinta ku abtirsada dhaqan bay yaqaanaan aday ku dirayaan isku kula galiyaan mid kale labaad bay ka dirayaan ka daba dirayaan dhaqankooduna waa dhaqan oo sirdoon oo muqaabaraad oo weligood ilaa milida kubaad ay ku dhaqmi jireen sidaas weey weligood u fiirsa dawlad deegaanka Soomaalida markay madaxweyne magacaan kuwa kale ka daba magacaabaan ka daba diraan oo mucaarad ku ah weligood wax iskama sii daayaan hadda maalin dhow waxaa la rabaa nabadgelyada Djibouti oo Imaaraat uu ka dambeeyo dhaqaale bixinay in khalkhal lagu abuuro marka dawladdeena Soomaaliyeed khaladkaas ummadda Djibouti ay ka gashay asif baan leenahay waa ka xunahay raalina ummadda Soomaaliyeed kama aha heshiiskan la gaarina wax ummadda Soomaaliyeed ugu jira ma aha dad anfar hadda fiiri Oromada sanadkii hadda 100 milyan baa laga soo 100 kun baa laga soo tirxiray Imaaraat ayaa laga soo tirxiray Sacuudiga haddana bilahana 50 kun oo kala soo tirxiray Sacuudiga soo kaxaynaya soo dhaafinaya xagee lagu wadaa ma taqaanaa dadkaas inay Soomaalida ay u shaqo tagaan sababta abay waxba oo ma hayo dadkaas dhaqaalo oo ma hayo hadda waad ogtahay boqolkiiba jidkan furan ka furan mooyaale waxay Oromada ugu socoto waa ilaha dhaqaalaha ay rabto inay Kenya ka gasho
isha kale ee raba in laga galo waxaa weeyaan tan Djibouti gees diir ee saddex geeska ah midna Soomaaliya ka soo baxa midna Djibouti ka soo baxa midna Ethiopia ka gala ee 60 kilomitir u jira sayla u jira marka Ismaaciil Cumar yuu ku eeday Ismaaciil Cumar geela hadii arrinta sheegayso waa arrin dadka ka daahsooneed laakiin hadda sida qorraxda u muuqata in canfar la wareegayso oromada waliba caawinaysa marka hadda mawli ma fahmayo hadda bal Somaliland iyo Puntland ma la hadlay marka oo ma yiri bal waxa la sameeyo maantan akhriyay shiru kula galay markii madaxdii hadda isugu timid Addis Ababa uu ku amaanayo leeyahay abay waxaad wadatid barnaamijkaad wadiga Afrika weydid waad ku fiican tahay Mengistu waxaan ku sheegay fiiri 1986 Mengistu ayaa wuxuu shir ku galay iyo siyaad barwaad weyd Djibouti hal kala qaataa la yiri jamadaha hal kala qaato hana la xiro siyaad bare wuxuu helay WSLF iyo Soomaali galbeed iyo kuwii jiga ormada hana galay bur wadankiina kuwii Eritreanka sidoo kale kuwii wixii dhan Tigray uu soo saaray yuu saaray mucaaradkii Mengistu ma saarin uu ku soo hubeeyaba waa oga sii daro hub soo siiyay magaratay marka dhagartaasi waa dhagar ay taqaano maamulka Etoobiyaanka ee ka soo shidaal qaata kaniisada Orthodox ka soo shidaal qaata ayba ku midaysan yihiin waaba qaab dhaqankoodaba marka ummadda Soomaaliyeed siiba ummadda Djibouti waxaan leeyahay khalad bay ka gashay dawladda Soomaaliyeed oo walaaladiina laakiin ummadda Soomaaliyeed kuma raaxsana hadda wad ogtahay Turkiga shalay asma khalad buu noo galo wadankii baaba'sanaa wuxuu kala dilay dadkii Hargeysa iyo Puntland iyo asaga dadku soo jiray maya khalad hayna galo Ismaaciil Cumar geelo oo ummadda Soomaaliyeed hormuud buu ahaa oo waxaan hadda ummadda Soomaaliyeed qabiilkii kala googooyay ninkii loo soo adeegsan jiray waxaan dawlad goboleedka la yiraahday ummadda Soomaaliyeed ka qaaday qabiilka ah waa ninkii oo madaxda ooga ah wuu yahay laakiin inaga shacabka Djibouti waa walaaladeen inuu dhulkoodii oo maqan oo dadkoodii maqan yahay beritan haddana canfarad ogtahay hadda gobolka Shinila ku sheegaya 6 degmo ayaa canfartu la wareegtay oo degmada Shinila gobolka Shinila haddana xaggana waa laga hubaynayaa maalinka dambe dumeero waxaad arki doontaa canfar mucaarad oo ka soo degaysaad arki doontaa maalin dhow arki doontaa up to now hatta siyaas kama hadlin in wasiir arrimaha dibadda soo diray American kama hadlin waxaan rabnaa in la heshiisiyo aniga Djibouti waxaan arkayay golaha jacada qormaha ka dhaxaysan golaha maanka arno garmaaye Djibouti oo u gudbisay warqad oo le waxaan doonaynaa arrinta geeska Afrika ka socoto way fiican tahay inaanu arrinta aniga Djibouti arrintaana la dhexaadiyo Djibouti oo wadan ka maqaya wax bariyaysa waxba ku sheegay fiir ma fahanto ama la abay kama hadlin mid kale heshiis Cabdi Waaxid aan ku yar fogaaday heshiiskan muxuu adiga ku haya fiir waxbaan ku sheegay xuduudka Soomaaliya waa open min ka soo bilow geestir ilaa ku geesa kale waa open way 500 oo baabuur ayaa subaxi ka gasha wajaar ka gasho jaada lacag lagu qiyaasay 200 oo kun oo dollar ugu yaraan ayaa Hargeysa ka soo xaroto dollar ayaa ka soo xaroto dhaqaali ummadda maalintii mise bishii waa one day maalintii waxay bishii waa one day ha 500 oo baabuur oo dayna oo jaada ayaa ilaa Boosaaso ilaa yaa tagta intaas oo dad mid kale meeqadada gala intee dada gar family intee gasha min ka soo qaad boorama ilaa geeska ku geey intee dada galo Ethiopian dadka Soomaaliyana ma dhaafi karaan baabili ma dhaafi karaan dawladda Somali state markay aadaysto hadda u socoto Addis Ababa Sudan taariikhda baabuurtooda waa laga bedelaa waxa lagu dhijiyaa taariikhda dawladda federaalka qof Soomaali oo jidka mara iska daayay oromada intee aadama ayay waxay tagtaa meesha doonta ka soo adeegataa waad arkaysaa maalowda jaamacadaha dawlad deegaanka Soomaalida ama Somali state intaasoo 10,000 baa qabdaara bas iyo yaa la geeyay hal qof oo Soomaali ah intuu tagay jidka mara oromo tagi kara iska badaa Axmaari iyo Tigray jaamacado iska daayay in yaro waxaan maqlahay Soomaaliland laga soo qaaday oo tiri anagu Soomaaliland baan oo la geeyay waa maqlay 300 ma baan waxaasoo dhan waxay ku tusayaan waxay ku tusayaan tabardarrida ummadda Soomaaliyeed gabadh baa waxa la bari gabadh iyo wiil baa arwada raaci jiray marka gabadh badan bay ahayd oo wiilka la legdanta loo qori tuurata Safiya nala joogtaa nagu dirin hadda wiilkii wax kasta way ka badisay orodkii bay ka badisay legdankii bay ka badisay wax kasta ka badisay maalinkii dambe iyo wiilkii jiray wuxuu maxaa tiraahdaa gabadha wuxuu waan intu xubinka tarka kaayada qabtay wiil halkaas aan ku kaleedii adna halkaa ku soo kaleedi
oo isku siba uma naalay tiri isku siba uma naalle ilaahay isku siba uma abuurine ma fahamtay ummadda Soomaaliyeed iyo Ethiopia isku siba uma yaalaan 300,000 baa lagu qiyaasaa militariga Ethiopia 500,000 rigliga oo boqolkiiba hadda ay 9 yihiin Oromo bariga hore boqolkiiba 80 baa hayeen ummadii kale Tigreega waa ka tageen xamaar waati qoomiyad kasta iska baxday dib baa loo Oromadii loo hubeeyay dhamaantood macal militariga laga dhigay 500,000 oo militari ah oo riglay leeyihiin xuduudka Eritrea hadda waa laga soo qaaday ciidamadii Ethiopianka ee joogay Eritrea xuduudkii lagu wareejiyay idinka mas'uulka ah dhamaantood waxa loo soo qaaday xuduudda Soomaaliya dowladda deegaanka Soomaalida loo soo qaaday maxaa ka gudbi kara bal wajaale istaag maxaa wajaale ka gudbo Soomaalida u galo oo ummadda Soomaaliyeed ooga taga ooga yimaada Ethiopia ka soo gala waa inta yaray wajaale dharka lagu gado wax kale ooga yimaada ma jiro milix lagama qaato Soomaaliya kalluun lagama qaato wax kale lagama qaato markaad istaagto baabili oo geeska ama aad heerba istaagto hal baabuur ah oo ummad Soomaaliyeed wada ama hanti ummad Soomaaliyeed wada indhaha ku qaban mahayo laakiin waxa ku dhaafaysa 500 oo baabuur oo jaada 500 oo baabuur oo qurun iyo khamro wada u socda Soomaaliya ayaad arkaysaa maxay ku qabtaa haddana Jaaniskan oo abay u socda waxa weeyaan inta milyan ee ku kaxsan Oromada ee meel loo leeyahay Arab laga soo tarxiilayo inay Jaanis u helaan inay galaan xuduudda Soomaaliya ay ka soo shaqeystaan tusaale ku siinaya gabadha Soomaaliyeed ee jaariyad hadday u soo doonato Ethiopia maxay ka shaqeynaysaa xagee jaariyad u noqonaysaa tusaale daawadayaal waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdulwaahid Cabdullaahi Khaliif gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dawladda guna kama qaadano gacan saarna mucaaradka lama lihin cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsinaan karaa laakiin danta guud waa mid gooriya ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis Allah u naxariisto u lahaa aan ku garownay gaar hayow geyiga ilaali saan idinka ballan qaadnay waxaan idin keenaa hal doorka Soomaalida oo culumadii leh dhaqaatiiradii cilmiga iyo aqoonyahanadii kale halabuuradii iyo hoobaladii iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada caawan waxa marti noo ahaa aqoonyahanada Safiya Yaasiin iyo Cabdi Udan iyo Ahmed Maxamed oo arrimaha geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliya khibrad weyn u leh gabagabadii hadal waxaan soo gaaray barnaamijka arrimahan saa u gada ballaaran de hal habeen iyo laba iyo yani kuma dhamayn karo waxaad tihiin dadka gaar haye yani ka qayb qaata insha Allah dhawaanahan maalmaha ama asbuucyada soo socda soo noqon doontaan adinkoo ku kala jira qaybaha kala duwan gabagabadii waxaan soo aruureynaa mid hal daqiiqo ama labo Safiyo waxaan ku weydiinayaa xagga cadaaladda markii la eego yani xeeralyaha guud mar la weydiinaya arrintii Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisii la weeraray oo dacwoonayay wuxuu yiri case-ku waa xirnuu leeyahayba oo odayaal yaa lagala hadlay wax saasa ama marka Cabdiraxmaan waa soo taagay wuxuu leeyahay arrintii maba ka warqabo marka ninkii muddaciga ahaaba haddaan yani laga warqabin arrintiisii maxay tahay marka xeeraalintu ka hadlayay iyo garsoorka Soomaaliyaalba haddii arrimihii ninkii siyaasiga ahaa ee ummadoodan ogeyd saas ba loo sahlanayo horta arrinta ma aragtay cadaalad horta dalkeena haddii cadaalad laga hadlo cadaalad Soomaaliya maanta ma taalo taasa xaqiiqo ah dhan kastaba meel walbaba oo waxaan ognahay maxkamadaha xataa ragga jooga hadda waan ogaa ayaama dhawaad inuu wax badbedelayo madaxweynuhu maxkamadaha Muqdisho ma garanayo inay wax ku soo siyaadin doonaan cadaaladda waayo wadanka rule of law haddii wax ka khaldan yihiin oo musuqmaasuq fiiri baarlamaankii federaalka waxaan ognahay in albaab lagu xiray quful la saaray oo wixii la rabo laga samaysto ma garatay baarlamaana u hanweyn uu ahaa marka baarlamaankiisu uu saa yahay oo la soo xiray albaab kasta waana institutionkii la xisaabtami lahaa xukuumadda iyo madaxweynaha hadda maamulada markay isqabsadaan oo kale yaa oo madaxweynaha iyo prime ministerka ay damcaan inay muquuniyaan maamulada baarlamaankii federaalka ahayd inay arrintaa la hordhiga aqalkii sare wuu qabanayaa hawshiisa inkastoo xoogaa laga soo xirxiray wadooyinka laakiin goormay cadaalad imaanaysaa haddiiba baarlamaankii federaalka ahaa ee 275 qof ahaa xubnood ee matalaya ummadda Soomaaliyeed sidii doonaanba ku yimaadaan
haddiiba ayna awood u lahayn in ay hadlaan oo ay waxay doonaan ay sheegaan oo ay shacabkii mataleen grievansigooda ayna soo bandhigi karin hadda tusaale ahaan maalmood waxaan arkaya fiqi xildhibaan fiqi oo leh weerarka nala ku soo qaaday tuhun uu jiro buu ka hadlayay goormay cadaalad imaanaysaa marka xildhibaanadiiba ay tuhun qabaan in dowladdii ay gacan saar la leedahay ragga weeraraya waxyaabo badanaa khaldan meeshaan arrinta cabdishakuur waxaan xasuustaa waagii waxaa lasoo publish gareeyey cadeymo la leeyahay lacagaa loo soo diro imaaraadka waagii imaaraadka la ishayey marka wixii waxay ahayd maxkamad furan oo dah furan oo transparent ah in la furo oo wixii lasoo bandhigo haddii nin muwaadin soomaaliyeed uu dal shisheeyaa lagu hela inuu caddeyn ka qaadanayo lacag laaluusha oo dalkiisii dowladdiisa la yiri burburi adduunku waynu ognahay system of governance-ga saxda ah waxaa sax ma aha laakiin horta goormaa governance saxa ee waddanka ka jirtaa markii dowladdii laftirkeedii ay baarlamaankii quful dusha ka saartay oo dadka sidii la raba laga yeelaya ma raba hadda inaan ka hadlo sababta wax ay sameeyaan laakiin waynu wada ognahay soomaali baana marka cadaalad horta maba dhowa dalkan aan ka fiiri madaxweynaha marka uu hadda tusaalaha uu walaalkay ka hadlaya arrinta heshiisyadan la gelaayo madaxweynaha markaa fiirsidayaa la shaqeeya dad khuburo ah oo maaragtay geeska afrika arrimaheeda iyo caalamka siduu u shaqeeyo aqoon-yahano waaweyn oo khuburo ah soomaali way leedahay oo dadkii hore ah madaxweynaha waxay advisors inuu dadkaa ka dhigto isku hareereeyo oo strategy planning iyo wax la isla sameeyo oo laga baaraandego heshiisyada uu galaayo shirarka uu aadayo la taliyayaal uuna ku xulanin qabiil ee uu ku xusho waddaninimadooda iyo dalka sida ay uga naxayaan bay ahayd inuu madaxweynaha isku hareereeyo waa huba inay volunteers noqon lahaayeen ma uuna sameyn aan kuu soo dhameeyo aan kuu gabagabeeyo marka waxaa loo baahan yahay cadaaladba intaanaan ka hadlin iyaa la xiray iyaa xer ilaaliyuu haystaa yaa wax layaa horta systemkeeni dhammaaba kasoo bilow madaxweynaha asaa ugu sarreeya dalka madaxweynihii ma ku dhaqmaayaa systemkii governanceigoo laga rabay in la isweydiiyo waay aniga waxaan qabaa maya waa tahay warkaagu waa cad yahay aad baa umahadsan tahay sidoo kale cabdi wadan aadna noo soo gaabi dowladdu hadda waxay ku doodaa xoogga waxay saareen afawaarke iyo abiy axmed waxay leeyihiin waa ka soo xirnay laakiin sida muuqata kenya ba xanaaqsan uganda oo ciidamada ugu badan xamar u joogeen oo ku ilaalisa yacni sida etoobiya dadku waagi hore kama shakin ayagaa airbortkii iyo xalane iyo dekedii iyo madaxtooyada u ardeeya ciidamadaas saas u jooga madaxweynihii danka male wuxuu iska aaday afawaarke iyo halkaas marka hadda waxaad moodaa mucaarad baa furmay hadda mucaaradkii fursad waxay u heleen inay jabuuti aadi karaan inay hadda kenya aadi karaan oo waagi hore loo diidanaa uganda inay aadi karaan ba hadda marka maxay tahay waxaan leeyihiin albaab baa soo xirnay haddii albaabadiiba sii fureen horta waxaa muuqataa inta badan markii maslaxa laga hadlayo maslaxada ummadda soomaaliyeed waa la yaqaana meesha ay aado iyo meeshay ku waajahan tahay waa la garanayaa marka aynu afarteena hadda wada joogna aan maslaxada ummadda soomaaliyeed xaggee ku jirtaan idhaahno waa laga yaabaa waddooyinka aan maraynaa inay kala gedisnaadaan laakiin maslaxadu waa hal xaba oo mid labaad ma jirto meesha waxa yaalla hadda ka muuqda sida loo akhriyi karo afcaashan waxay u muuqataa in ay nimankan hadda dowladda hormuudka ka ay isdhahaan bal inaad beddeshaan systemkii hore ilaan waxaan waxa loo ordayo xasan sheekh waad garanaysaa labadii sane u horreysay wuxuu ku berdereeyey dagaal inuu la dagaalamo maamul goboleedyada iyo waxaan iyo u shaqayn waayaan oo federalismka la tirtiro labadii sanana wuxuu ku dhammaystay dambe inuu federalismkii la dagaalamayo inuu dhiso oo maamul goboleedyada intooda badan isagaa dhisay kuwan hadda sida muuqata labadii sano ee hore ee xasan sheekh oo kale iyo dagaal hadda bilaabeena inay maamul goboleedyada ay isku dayaan inay tirtiraan waxa loo tirtirayana waxaa weeye maamul goboleedyadii baa la yidhi waa in laga soo doorto xildhibaanadii markii uu soo doorto de maamul goboleedkii isagoo awood leh markuu xildhibaan uu soo doorto ay isagaa dhahaya ninka jooga maamul goboleedka ayaa dhahaya hebel ha loogu rido codka marka waxaa yaraanaysa jaaniska ah inay dib u soo noqdaan baa yaraanaysa waxay markay sameeyeen oo hadda meesha ka muuqata waxaa laleeyahay waa in laga gudbo systemkii odayaasha wax soo xuli jireen inta laga gudbo dalka waa in axzaab la gaarsiiyo ayagu marka waxay rabaan si ay u dhahaan alaxzaab baan gaarsiinay waddankii xeerarkii axzaabta horta waa in la diyaariyo xisbiyada xeerkii baarlamaanka la mariyo xeerkii waxay ahayd marka in maamul goboleedyada lagala tashado oo loo celiyo sida sharciga dastuurka ku qoran
oo maamul goboleedyadu ay ogolaadaan xeerkan iyo dastuur waxaan ay qoreen inay lagu heshiiyo markaa kabacdi baarlamaanka la geeyo ayagu waxay sameeyeen markaa ayagaa qortay maamul goboleedyadii lagalama tashanin waxay markaa samaynayaan in maamul goboleedka marka hore horta lala diriro oo raggan madaxda u ah la bedelo ila doorashooyinkooda ka soo horeeya ayaga doorashada federaalka markii ayaga isdhaafiyaan say istuseen ee ayagu geystaan rag kale waxaa markaa imanaysa in la dhaho doorashadii xisbiga ha lagu tartamo marka adiga cabdiwaaxida haddaad rabto inaad metelma baydhabo oo kale aad iska soo sharaxdo adoo xisbiga nabad iyo nolol ah yaad isku soo sharaxdo codkii marka aad hesho adigu automatically madaxweynaha u sharaxan nabad iyo nolol yaa codkaaga qaadanaya not necessarily in dhawaan intii baalad la sameeyo inaad codka ugu rido muhiim ma ah marka waxay ka fikirayaan inay iyagoo bannaankoodaba joogo inay codkii helaan dowladda soo socota xukuumadda soo socota taa weeye hadda waxay u dagaalamayaan laakiin maxay luminayaan weeye meesha maxayaase wax ku luminaya arrintan iyada dagaalkan hadda meesha ka socda dagaalka meesha ka socda si hadda ay dowladda dhexe isu tusayso ma ayna ku guulaysanin waxayna ugu guulaysanin kow dagaalka rasmiga ay gelayaan waa 3 maamul goboleed waa South West haba si kala daraadaan South West Puntland iyo Jubaland waa 3daa weeye 3da midka ugu horeeya hadda galeen waa South West Sharif in meesha la dhaafiyo waa qorsho kaaway ku guulaysteen laakiin qorshaha labaad wuxuu ahaa nin ay ayagu wataan inay meesha keenaan taa markaa way fog tahay weli waxaa muuqda Sharifka inuu culays ka saarayo oo maadaama cadowgii waa saaxiibka meesha laga dhihi jiray inuu gacan saar la yeeshay oo xildhibaanadii asaga u codayn lahaa iyo asxaabtiisii iyo dadkiisii intuu shiriyo uu ku yiri waa inaad ku daba fayshaan Abu Mansuur Roobo sida aan la soconnana shacabka hadda maanta haddii la dhaho cod vote ha loo qaado South West shacabku waxay dooran lahaayeen Abu Mansuur siyaabo badan bayna u dooran lahaayeen oo legitimate markii la fiiriyo Sharifku markaa wuxuu samaynayaa dhaqaalihii uu haystay oo dhan wuxuu saari doonaa Abu Mansuur oo dhinacna abtigii ka markii dhinaca laga fiiriyo marka waxaa la dhihi karaa dawladda dagaalkeedu weli 1 iyo 2 ma joogo waxayna u badan tahay inay arrintaas South West ku guuldareystaan bay u badan tahay marka aad si hoose u sii fiiriso nimankan hadda South West xildhibaanada ee dhaqaalaha soo qaatay waxay ku noqon doonaan baydhabana way ku noolaan doonaan mustaqbalka marka waxay ku qasbanaan doonaan inay shacabka rabitaankiisa ay qaataan iyo waa tahay waxa ku soo haray Jubaland iyo Puntland way ka bedelan tahay ayagu dagaalkooda Jubaland waxay rabaan inay ku waajahaan maadaama Axmed Madoobe oo nin ciidan xoog badan haysto kismaayana ay adag tahay in loogu tago oo uu dadku soo tarxiilayo waxa iyagu hadda isku dayayaan inay ciidamo habeeyaan oo haystaan oo ay isku dayaan inay bu'aala qabtaan sababaha ugu weyn ee Eritrea cunaqabataynta looga qaadayna xoga rasmi waxay sheegayaan in dawladda dhexe ay rabto in ciidamo nabad ilaalina Djibouti laga keeno Eritrea iyaga Ethioopiyaanku ay bu'aala qabtaan dadna bu'aala ay shaqo qabtaan oo dhahan dawlad kale ku dhisaan ka madax bannaan Jubaland ay Jubaland dawlad kale oo labaad halka ugu yeelaan bay doonayaan arrinta Puntland way ka bedelan tahay iyadu Puntland waxay rabaan in maadaama lafo jilbiyo ay meesha joogaan oo system qabali ah ku dhisan yahay in jilbiyada la qayb la xoojiyo oo nin la taageero oo marka ayaga jilbiyo ahaan jifa ahaan la isugu waxeeyo laakiin sidaan uga baranay Puntland way ka ilbaxsan tahay way ka yar horeysaa system ahaan iyo nidaam ahaan way ka horeeyaan Soomaalidan kale koonfurta midka u dambeeya wuxuu noqonayaa in maslaxada ay fiiriyaan oo qofka ay rabaan inuu soo doorto not necessarily inuu Cabdiweli soo noqonayo laakiin xataa dawladdu ninka ay taageerayso hadduu Puntland ka soo baxo walama shaqayn doono sida ay rabaan ee wuxuu ku shaqayn doonaa maslaxada Puntland warku waa cadi aad baa u maasan tahay Axmed Maxamed arrinta failure-ka laakiin ku noqonaya waa dib noqosho Soomaalida socodkii baa yaraanaya marka waxaan ku talin lahaa dawladdu intay dib isu xisaabito inay waxyaabaha khilaafaadka ee waaweyn ee hadda samaynaysa intay dib u saxdo aan dadka waqti badan laga dhumin warku waa cad yahay Axmed adigana gabagabadii baan ku siinayaa saa la socotid haddeer waxaynu ka hadalnay in xafiiska Abi Axmed ay taal warqad la leeyahay
arrinta federaalnimada Ethiopia hala laalo meesha laga saaro dib bay noo keentay dadkiiba isku diraysaa Somali State-na waxaa ka socdaa maaweelo iyo suugaan iyo shirar aan waxaan macna samaynayn ciidamadu iskuma dubaridin dadkii si fiican looma kontroolin madaxweynaha la taliyay waxa uu ah niman ku xeel dheer in ummadda la khiyaamo oo xataa cadowga isu dhiibi jiray waad garanaysaa marka maaweeladan iyo Masidi Zanaawi uu ayaantii oo kala yeelayba waxa is leedahay waa wax ka duwan oo dan ugu jirto Somali State Abdulhadow intaana Somali State gelin ummadan nimankan Muqdisho fadhiya ee ummadda Soomaaliyeed oo dhanba hormuudka waa meeshii laga taabtaba siyaasadooda waa wax madax ka dhiiqaysa amal weeyaan fiiri markii koobaad waxay raaceen imaaraadkii waxa isku dhacay Qatar iyo Sacuudiga Qatar bay ka raaceen imaaraadkii oo ciidamadii Soomaaliya dhaqaale siiya oo degan oo ciidamo u tababaran markii waa kii ciidamada ku sidaayay hubkan hadda la isku haystay qoladii raacsanayd alatriyo loo saaray Soomaaliya geeska Afrika ay leeyihiin hubba galay oo la gatay waa hubkii imaaraadku ciidamadaasi askarta kala tagtay waa fashil waxa isku dhacay Sacuudiga iyo Canada isku dhacday waxaan lugtooda aba ahayn waad ogtahay intee boqol oo Soomaaliyeed baa ku nool Canada Sacuudi muxuu qabtay ummad Soomaaliyeed oo geeska Afrika degan muxuu Sacuudigu qabtay gabdhaheena taga ee tahriib ku taga ayuu dib u soo tarxiilay ayaga ilmahooda intuu kala reebo soo kala tarxiilo geeska Afrika ku soo tuura waad ogtahay xataa inuu madax baynu ku leenahay ilaa heer wasiir bay Soomaalidu ka gaadhay Canada waa shil labaad galeen waxa ku xigtay tii Cabdikariin Sheekh Muuse ay gacanta u galiyeen Ethiopia ee ku fashilmeen waxa ku xigtay oo haddana nin la dilay oo wariye ah oo maskiina oo dalkii Turkiga ogeyd sharaftu as magangaliyadu ah sharaftii lagaga qaaday ayaa inta warqad iska qoray ayuu ka fiirsanin ayaa waxay dhaheen wixii dawladda Sacuudiga wax u dhimaa waanu ka soo horjeednaa haddana mid kale qoreen oo leeyihiin baarista ay Sacuudigu wadaan waan raacsanahay horta plan B ma leh nimankan filla Soomaaliya plan B iyo qorshe ma leh tan hadda Djibouti ay ku sameeyeen dad baa waxay ku kaftaan waxay dhahaan warqadaha soo baxa computer iyo bots waxaan robot baa soo saaray qof ma soo saaray dadku qaar dhahaan marka maxaa ka jira arrintaas wado waxa kala farq wakii wasiirka arrimaha dibadda ka hadlayay tii maalinka dhaweeytay arrintii uu ka hadlayay islaha annagu qaabkaasaan ula jeednay hatta markii wax qoriyaan waxaan idhi nimanka u qaxta markii loo siixay maba akhriyaan baan anigu waxaan qoraalku siduu yahay qaabka loo dhigay maba akhriyaan sababta wax erayaa la isku dilaa oo ama capital letter iyo small letter hadii loo qoraba la isku dilaa moogta arrintu isu wada bedelaysaa moogta inagu ma nihin dad siyaasadda ku lug leh laakiin waxba isbedela ma akhriyaan baan u malaynaya midda kale waxaad moodaa fudayd baa kharibaya dawladda Soomaaliyeed nimankan hormuud ku ah fudayd baa kharibaya ka fiirsasho la'aan Axmedow tan Somali State marka waa warkaagu waa cad yahay Somali State wixii horta Highlandka ka yimaado baa Somali State u tagaya ayuu waxba kuma leh xisbiga IBRDF kamid ma aha afarta qowmiyadooda ku jirta kamid ma aha kolba qoladii haysta tirsato dhaha annaga nagu tiriya waad ogeyd Tigraayga bay raaxsanaayeen xisbiga TPLF bay raaxsanaayeen Abdiiliina de Tigraayba markii keensaday Mustafana waa ognahay oo de ummad Soomaaliyeed baa dooratay nomination buu ku yimid yaasa keenay OBDO baa keentay mana garan mar karo OBDO waxay keento ma garan mari karo awoodana waxaan iska leh xabashida hadda u fiirso Soomaalidu hal wasiir bay ku leedahay Axmed Shido ahaa wasiirkaas waxaad moodaa inay heleen fulay waxaan maqli jiray waxay dhihi jireen yani waxaad gudub la weyn maskiin gudub la weyn wasiirka ugu weynaa maaliyadda nalsiye oo intee boos kaalinta saddexaad bay qowmiyadda kaga jiraan wadankana waa kaalinta koobaad dhul ballaarka golaha baarlamaanka sharciga dastuurka Itoobiya wuxuu dhigayaa boqolkiiba hal xildhibaan inuu leeyahay maxay ku leeyihiin weligaa maqashay baarlamaan federaal nin ka hadlaya dadka la leeyahay dadka la baabinaya qof ka hadlaya weligaa maqashay ama nin baarlamaan ka hadlaya weligaa maqashay oo dadkan maxay loo leenayaa maada maqal ma jiro tayo male kolbo xisbiga ninka madaxda ka wasaaraha ka ah xisbigu ka tirsan yahay sida OBDO ama TPLF kuwa aan baa tirsada oo hadhow ayagu siixo dhaha annaga mabda ayagu soo midhaan annaguna raacsan yahay marka waxaan qabaa wax awooda
iyo wax tabara ay ku leeyihiin ama waxay ka dhigi karaan haddii dastuurka Ethiopia haddii nidaamka dhan la bedelo waxba kama aha midda kale dowlad deegaanka Somali state waxaa ka jira military go'aanka oo dhan iyo waxa loogu soo dhiibay military baa loogu soo dhiibaa yani ma ka jira administration shibili oo ka hoose mooyane laakiin talada iyo awoodda askari baa fadhiisanaya waa tahay warkaagu waa cad yahay safiya adiga adaa hal daqiiqo ku siinaya marka lagu axanaya maxaa ku soo xiraysaa marka adigu hadda aad leedahay ku talinaysaa dadka Soomaaliyeed iyo ku soo gabagabeynaysaa barnaamijka horta cabdiwaaxid aad baa u mahadsan tahay mar kale walaalahayga kalena waa salaamaya mar kale iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ku soo gabagabeynayaa dawladda federaalkan rabaa inaan kula taliyo ma qaanda inay dhageystaan gabdhaha taladooda laakiin waxaan kula talinayaa inay balorta dib inta u fariistaan ayagoo kalsooni ummadda Soomaaliyeed 100% haysto aniga ay ku jirto anigoo ku jira dadkii taageeriyay in ay hal habeen hal subax inayna luus gareeyaan anagii oo dhan balorta dib inta u fariistaan ha u fakaraan maxaa keenay in dadkii ay kalsoonida kala noqdaan weli way xallin karaan weli waqti haystaan taas waa mid tan labaad in ay muquuninta joojiyaan ummadda Soomaaliyeed lama muquunin karo ummadda Soomaaliyeed qofka Soomaaliga ah in la muquuniyo oo la khasbo wuxuu ka xigaa dhimasho waxaan rajaynayaa madaxda Soomaalida inay fahmeen maturity ahaan inay mature noqdeen ay fahmeenan mooday inta waxa weeye maamulada tan saddexaad oo rabo ina xasuusiyo dawladda waxa weeye maamulada waxay doonaan ha ahaadaan ama qabiil ha ahaadaan ama si kale ha ahaadaan dadku iyaga waxooda leh there is an ownership dadka iyaga waxooda leh qof ay xamar ka soo kaxaysteen ama qof ay iyagu u qabaan inay wax u yeerin karaan dawladda hadda aan tayadan walaalkeen ka hadlaayo wasaaradda arrimaha dibadda sida uu shaqeynayso dawladda aan ka hadlayno oo noocaas ah nin ay soo kaxaysteen ay rabaan inay maamulada u dhiibaan hadafkii uga leeyihiin tusaale ahaan anigu maalin horena waan ka hadlay Puntland waa meel furimo badan leh especially waxa dul fadhiya shabaab nimankii baa buuraha ugu jira nin xamar laga soo magacaabay oo aan waxba kala ogeyn oo wax loo soo yeeriyo markay meesha keenaan asagoo hurdaa la qabsanaya boosaaso shacabka Puntland waa ku baraarugeen arrintaas runtii marka idin sheego waxa weeye waxa ay sameynayso dawladdu ma dalkay burburinaysaa mise waxay u timid inay wax hagaajiso anigu waxaan u arkaa inay wax burburinayaan laakiin way ka joogsan karaan hadeer hadda intay dib u istaagaan dib intuu u istaagaan way is sixi karaan aniga marka waxaan rajeynayaa inay is saxaan taas ummadda Soomaaliyeed oo dhan dan ugu jirtaa fikradaadu waa gaartay kuwaas waxay ahaayeen Axmed Maxamed Cabdi Udan iyo Safiya Yaasiin oo ah aqoon-yahano ka qayb qaata gaar haye wax kale oo noo haray aan ka ahayn inaan u mahad celino iyaga iyo daawadayaashii marka intaan ka gaarayno arrinta Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti xasaasiya haddii aqoon-yahano jireen iyo culimo iyo hadda loo baahan yahay marka barnaamijkeena kan ku xigay intaan gaarayno waxaan khiyaartan aqoon-yahanadan iyo idinkaba idinku leenahay jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.